wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida aad nagala socotaan intiina nagula sugan goobta iyo intiina naga daawanaysa daafaha kala duwan ee adduunka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda telefishinka Ariel TV oo toddobaadkan aanu ku soo qaadan doono wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo dhawaan la filayo in ay dib u furmaan kadib markii uu hakad ku yimi barnaamijku waxa tir dhaxaad u noqon doona oo su'aalihiisu ay ku saleysnaan doonaan intooda badani wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya xagee bay tahay in laga bilaabo kuwii hore ay ku wada hadalladii hore ee Somaliland iyo Soomaaliya maxaa ka qaldamay maxay tahay Somaliland iyo Soomaaliya in ay ka wada hadlaan xagee ayaa lagu wada hadlayaa Somaliland iyo Soomaaliya ma iyaga wada hadlaya ma cid baa wada hadalisiinaysa haddii ay noqoto in cid wada hadalisiiso waa ayo cidda ugu haboon ee la aamini karo ee dhexdhexaad noqon karta ee wada hadalsiin karta Somaliland iyo Soomaaliya su'aalahaas iyo kuwa kale oo la halmaala ayaanu barnaamijka ku soo falanqayn doonaa waxaan igala qayb gali doonaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo iskaashiga caalamiga Dr. Saad Cali Shire Professor Cabdisalaan Yaasiin oo isaguna midigteeda fadhiya iyo waliba Ismaaciil Hurre Buuba oo ah siyaasi taariikh weyn haya aqoon u leh arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo igala qayb gali doona xildhibaan Maxamed Xirsi Obama oo ka socda golaha wakiilada Somaliland waxa kale oo sidoo kale barnaamijka igala qayb galaya aqoon-yahano sharci yaqaano iyo professoro ka socda jaamacadaha iyo waliba dhalinyaro barnaamijka qayb kamida su'aalaha iyo soo jeedinada fara badan ku leh oo uu kamid yahay garyaqaan Guleed Axmed Dafac iyo waliba gudoomiyaasha jaamacadaha qaarkood barnaamijka waxaan ka bilaabi doonaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland mudane wasiir marka hore dhamaantiin waa idin soo dhaweynayaa waa idin ku mahadcelinayaa inaad iga soo aqbasheen waqtiga waxaan ka bilaabayaa wasiir wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya haddaynu soo noqono danta ugu weyn ama baahida ugu weyn ee Somaliland ku kaliftay in Soomaaliya ay wada hadal la gasho 27 sanadood oo ay ka gooneed kadib waa inay aqoonsi hesho ma tahay ama suuragal ma tahay aqoonsigu inuu ka soo dhex baxo wada hadallada ay Somaliland iyo Soomaaliya wada galayaan wada hadalladu waxay noo bilowdeen 2012 ayay noo bilowdeen markii hore nidaamka iyo sharcigu waxaan inaan wada hadal wadnawaati baarlamaanka la geeyay la ansixiyay in wada hadal la bilaabo waxaana keentay baahi haddii ay cid wax naga dhaxeeyaan maadaama innaka iyo Soomaaliya arrinkeenu taagan yahay inaynu ku bilowno wada hadal oo ku dhamaysano arrinkay naga dhaxeeya wada hadal haddii cid arrin dhex marto waa macquul qofkeena inaa wada hadashaan markii wada hadalka la bilaabayay shirkii Soomaaliya loo qabtay 2012 London shirku markuu gabagaboobay baaqi ka soo baxay farqadiisa lixaad ayaa waxay tiri caalamku wuxuu yaqiinsaday in loo baahan yahay in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan siday u gaaraan siday meel u dhigaan cilaaqaadkooda mustaqbalka amba masiirka koota taas baa keentay intii ka dambeysay 9 kulan ayaa dhacay 6 kulan waxay ku dhaceen wadanka bay ku dhaceen Turkiga 3 kulan oo ka dhacay Istanbul 1 iyo 2 iyo 3 iyo 3 shir oo ka dhacay Ankara iyo mid ka dhacay maxay dhahdaa Dubai iyo mid ka dhacay Djibouti intaas ay haddii aynan ku kalsoonayn in ay wada hadalku inuu ku dambeyn doono in maxaan idhaahdaa inaku aynu yeelano go'aanka maxaan taqriir masiirkeena amba inaan ka soo baxaynin maxaan idhaahdaa xornimadeen iyo gooniisu taageen dabcan deemaynaan galeen waa rajo iyo qudarayn aynu ka qabno inuu ku dhamaan doono wada hadalku inaynu noqono laba dal oo walaala oo madax bannaan oo mataqaanaa ku wada nool geeska Afrika wasiir waxaan u gudbayaa Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waa sida su'aashii hore ahayd ma kula tahay inuu ka soo baxayo aqoonsiga Somaliland
maaha uun ma ka soo baxaya waa inuu ka soo baxaa hadilmiye muxuu ahaa waxa loo wada hadlayaaba waxa weeyaan laba wadan oo 60kii isu tegay weeyaan Somaliland iyo Soomaaliya horta kulka horeba wada hadalka labada dhinacba ay aqbaleen inuu hadilmiye arrintu ay tahay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya waa inaynu gelinaa hadilmiye qaab hadilmiye muxuu ahaa قانوني وهذا هذا الكاسو كله هذا الصومالية إيه Somaliland هرت حلقة كوسة ليسين قانونية واحد كوسة ليسين كون إيه سجال بقول إيه كوبي اللي حدن كي بشي جانور ويلتينا هيد وحا لسعي هاي قانون كي يسوقين Somaliland إيه Soomaaliya كل كي سدحات قانون كي سدحات الصبح كي وهري وحصاب حي كون يسقال بقول يلحدن كي بشي جون تدوية لواتن كيدي مالين كلية ويقدم بيسيب Somaliland كاستقلال كذا قادتي وحانا هدلمي قانون كاي سوقين تهدلمي وكصوب حي بارلمان كي دولة دي مدح بنانيد Somaliland كلابات وحو أها mid ka soo baxay baarlamankii Soomaaliya ee sugayay inuu istiqlaalkiisa qaato bishii Juun wuxuu soo baxay bishii Juun 30keedii iyo 30keedii mid bay ahayd maalin amba laba maalmood buu ka horeeyay kolkay Soomaaliya qaadatay istiqlaalkeeda labadaas hadilmiye muxuu ahaa qaanuun ay isu tag labadu waxay ka soo kala bixeen laba dawladood oo la kala hadilmi xuduud la muayana xuduud Afrika ay hadilmi muxuu ahaa aqoonsan tahay oo mid walba hadilmi isagoo madax banaan u goostay inay isku darsamaan laakiin se waxa la yiri qaanuunkii ka soo baxay Somaliland iyo kii ka soo baxay baarlamankii Soomaaliya kolkaas aan wali qaadan hadilmi muxuu ahaa xorriyada waa inuu jira qaanuun kale oo ay u midaysan yihiin sida awadeed ayaa bishii Juun hadilmي بحاها كون يسقال بقول يكوبي اللحدنكي قانون كي سجين تسدحال وصوب حي وحانا صحيحي مدحوينه كل كاس hadilmي تشوجي hadilmي آدم عبد الله عثمان قانون كاس وحو ككوبن يحي hadilmي بحاها أكتفين كاس وحو ككوبن يحي 10 قضب وحيالها كتيرنا وحويان Somaliland iyo Soomaaliya oo labaduba laba dawladood oo hadilmay independent oo xor ah ayaa qaanuunkan uu yahay ka isu geynay waxa qodobka afraad buu ahaa qodobka afraad hadilmay qaanuunkaas kolka hadilmay la yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya horta wada hadlaya waxa laga wada hadlaya waxa weeyaan qaanuunkii ay isugu tageen waxay ahayd Somaliland iyo Soomaaliya si wayno soo noqon doona maxaa laga wada hadlaya waa qodobkan soo socdo laakiin arinta suuragal ma tahay aqoonsigu maxaa Somaliland ay ka urisay in ay Soomaaliya wada hadal la gasho xiliyada hore ma dhici jirin marka su'aasha suuragal ma tahay aqoonsigu halka ku jiro waxa weeyaan sida labadii dawladeed ay isu yimid ayaa iminkana wada fadhiisanaya kolkaas daad u fiirsado dhinaca qaanuunka waxa hadilmay wada fadhigaas oo xambaarsan yahay labada darafba inay yihiin laba daraf oo mid walba ay kolkeedii horeba ay ahayd hadilmay muxuu ahaa mustaqil ay ahayd madax banaanayd oo isu tagoodii hadilmay isu tageen oo hadilmay shaqayn kari waayay oo hadilmay sidii ugu haboon ee cilaaqaadka hadilmay muxuu ahaa ku jira wixii ka dambeeya oo noqon sidaas aawadeed anu waxaan u haystaa wada fadhigaasi inuu xambaarsan yahay Soomaaliya oo ogol in Somaliland ay tahay عدي كوبي اللي إحنا كي قشي هدي المية محاها من نمضة إن سياس عودة إن هدي المية محاها أي أقونسن تهاي بالسومالي وحلا الدنيا لكن سأقون سقاسي إنه النقضاء شرعي إني ما دي سيدا نقول لهاي وإنه أكسون لهاي Soomaaliya qaanuunka hadii ilmiyan sheegay sutagu wuxuu oranaya Somaliland iyo Soomaaliya kolka isu tageen waxa isku noqdeen Jamhuuriyadda Soomaaliyeed
koob iyo sagaashankii somalilan waxay tiri wuu burburay oo imika waxaanu la soo noqonnay adilmiye muxuu ahaa madax bannaanadeeda baan la soo noqonnay dowladnimadeeda baan la soo noqonnay iyagoo keliya maaha soomaaliya kudhideedu 2012 dowladdii la sameeyey ee ka baxday kumeelgaadhka waxay la baxday magaca la yidhaahdo dowladda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyaddii bay ka baxday marka ay ku midoobeen Somaliland iyo Soomaaliya labada dhinac way ka baxeen waxa waxa laga tagay arinta ay leedahay Somaliland waanu ka go'nay oo mar hore Soomaaliya ba ka baxday waatay professor Abdisalaan Yaasiin ayaan ku wareejinayaa su'aashii ahayd aqoonsiga Somaliland ma ku jira wada hadallada Somaliland horta intaynaan aqoonsigu inuu ku jirayo inaanu ku jirin aynaan u tegin waxay la tahay in aynu sida professor Ismaaciil Buuba uu imika taabtay wixii ka dambeeyay arrintan imika aynu hadal hayno ee wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya in si wanaagsan loo milicsado waayo waxaa ka dambeeyay waxay ahaayeen wax aan ku dhisnayn qaanuun oo kaliya sida Ismaaciil sheegay ay dareen xamaas iyo xiisad Soomaalinimo oo waagaa jirtay 50kii iyo 60kii ay ku yimi taana inagu inteeda badan aynu kor ku qaadno inagu 80 sanadood ku dhawaad kadib markii Ingiriiskii laga xoroobay oo dawlad 35 dawladood aqoonsadeen markaa leh oo 4 casho jirtay ayaynu inaga oo aan si wanaagsan uga baaraan degay sidii sidii uu noqon lahaa isu tago oo markaa xamaasadii waday ayaynu tii galay markaa Somaliland waxay lahayd waa dawlad madax bannaan oo dastuur leh oo qaanuunkii xataa lagu midoobayay oo iyadu ay gaar u soo samaysay intii oo dhanba sidaa inuu Ismaaciil ka taabtay waxyaalo badan baa ayaa la buriyay oo aan samaysmin oo imika jira oo xagga qaanuunka markaad eegto markaa qaanuun saxa qaanuuniintiina imika way nala joogaan baa tidhi oo lagu midoobay oo hagaagsanay meelo badan ma jiro meelana waa ka muuqdaa siduu professor Ismaaciil taabtay marka sidaa darteed waxay noqonaysaa Somaliland sideedaba in ay mar walba ahayd dawlad madax bannaan oo madax bannaanidii ay mid kale madax bannaan kula midoobaysay ay qaladaad weyn ka dhaceen hase ahaatee qaanuunka baarlamaanka laga sameeyay aadan cadde uu saxeexay berigaas unba in midnimo ay timi la sheegay dastuurkii sanduuqii madoobaad iyo sanduuqii cadaan uu ka dambeeyo waa la diiday marka ilaa maantada aynu hadlayno Nuuruddin Somaliland maxay kala hadlaysaa Soomaaliya marka aqoonsi maaha Somaliland way dal madax bannaan weeye dunidii baa u arkaysay imika wada hadla marka halkan uga qaadayna waa halka noqda wada hadalkaas ma ku jirta aqoonsiga Somaliland iyo Soomaaliya inay aqoonsato waa inay ka wada hadlaan weeye markii hore wixii ay isugu tageen watay xildhibaankan u dhiibaya xildhibaan Maxamed Xirsi Obama wada hadalkan socda itraaf ku heli karnaa mise kuma heli karo ishooda tan horta aan in yar wax ka sheego waxa weeye dawladihii imika dawladii tagtay ee Soomaaliya ka horeysay go'aamada ay ku shaqeynaysay waxay ahayd yaan Soomaaliya la hadal reasonkii doonbaato reasonkii ay markaa dhiganayeen ay ku doodayeen ay dawladdaas ku doodayeen dawladdu ku doodayeen waxay ahayd simply Soomaaliya iyo Somaliland ma wada hadli karo waxa la wada hadli karin waxa weeye Soomaaliya waxay aaminsan tahay inaan gobol ka mid aan ahay Soomaaliya waxay aaminsan tahay in madaxweyne ay tahay Soomaaliya waxay aan aaminsan imaba aaminsana inaan dal iyo dad jira aan ahay therefore waxaan ka wada hadlaynaa isku soo fariisanaynaa way adag tahay saan isu fahamno horta halkaas ka duuliyay arrintaasi siyaalo badan baa loo arkay dad badan oo arkayay oo leh war imika Soomaaliya ay jilicsan tahay oo Soomaaliya aynu wax ka dhashan karnaa aynu ka dhashano in way jireen dad badan oo iyaguna leh war adduunyada aynu ictiraaf ka doono Soomaaliya ictiraaf ka dooni karmayna iyaduna waa jirtay hase ahaatee taasi saasi dawladihii hore dham ay mataqaana ay ku shaqeynayeen heer baa laga soo saaray in Soomaaliya Somaliland
ana wada hadal Soomaaliya Somaliland aan isu tagin labada baarlamaan ay proof gareeyeen oo xitaa xadidayay in la isu socdo siyaasada isu socdo dawladii Silaanye ee 2010 way timi waxay qaadatay model kale oo ah in la wada hadlo waayaan ku soo dhawaano wada hadalkaasi waxaan qabaa inaan horta inaga imanay international community laftigeeda inay ka yimaadeen adduunyada ay lahayd wada hadlo isor fadhiista wax la arrange gareeyo horta la inagu dhaleeyay ahayd inagoo Somaliland intaanu tagnay noo soo fadhiisay Soomaaliya noo soo fadhiisay shirkii ingiriiska 2012 horta ka dhashay intaas ma اعتراف ma keeni kartaa horta yaanu dhinay gareeno اعتراف ma haysano Soomaali adduunyadu inama اعتراafsana wada hadalkan saa Ismaaciil sheegay waxaynu ka doonaynaa oo inagu aynu ku hogaaminaynaa in aynu اعتراaf helo oo Soomaaliya ay ka timaado in wada hadallo oo aynu laba dawladood oo adduunyadu dhageysanayso oo wax isku fahma oo wax isku raaca oo wax isku اعترaafa inay noqono markasta aan waxaan qabaa dan weyn baa ugu jirta wada qabta Soomaaliland waxa weey inaynu ku hogaamino in aynu اعتراaf helo yes watay aad bad maasantay xildhibaan haddaynu isla fahnay qodobka ah Somaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan dani ma ugu jirta Somaliland waxaan uga gudbaynaa maxaa laga wada hadlayaa maxay tahay in laga wada hadlo wada hadalladii hore Somaliland iyo Soomaaliya wada galeen ka dhacay Ankara Djibouti iyo Imaaraadkaba waxa laga hadlay qodobo kale ka soo baxay oo aan ahayn arintii masiiriga ahayd halkay tahay wada hadaladani haday dib u bilaabmaan mudane wasiir adan marka la ka bilaabaya in laga bilaabo wata shirkaas lagu galay Ingiriiska 2012kii gunaanadkiisii community ka soo baxay wuxuu oranayay waa in caalamku uu taageero inay wada hadlaan Somaliland iyo Soomaaliya si meel u dhigaan cilaaqaadkooda mustaqbalka taas beh waxaan rajaynaynaa in wada hadalkan ay ka dhashaan marka dambe inaynu meel isla dhigno arrinkaas oo ah inaynu ku qancino dawladda Soomaaliya in iyada laftigeeda dani ugu jirto gobolkana dani ugu jirto caalamkana dani ugu jirto inaynu noqono laba dal oo maxay raahday labaduba ay xor yihiin oo walaalaa oo geeska maxay raahday ku wada nool su'aashii ahayd xagga laga bilaabay horta masiirku waa ka weey waa ka u dambeeya laakiin inta ka horeysa iyo imka shirarkii aynu soo galayba waxa jiray qodobo kale oo aynu ka hadalay qodobada waxa kamid ahaa sidii aynu wada maamulan lahayn hawada qodobada waxa kamid ahaa sidii aynu nabad ugu wada noolaan lahayn oo aynu mataqaana uga fogaan lahayn hadalla xanaf leh oo isku dhac keeni kara iyo dhibaato marka dambe horta waxa jiray amuur caynkaas oo kale runtii aynu isla garanay haddii laakiin qodobadaasi waxaad moodaa Soomaaliya labadaba inay ka baxday hawadii wax la leeyahay Soomaaliya way la wareegtay oo Muqdisho wareejisay yaan la carqaladaynin horumarka Soomaaliland ay ku talaabsato oo aan propaganda lagu furin taana marar badan bay ka cabatay waxba kama soo bixin soo lama oran karo oo wada hadalladaasi wax Soomaaliland u baahan tahay kama soo bixin waa runtii hadallo waxay soo socdeen deemanka muddo 5 sanadood amba 6 sanadood badan ma kartaaba imika qodobada yar yar aan taabtay mooyaane la xiriira hawada maamulkeeda iyo hab dhaqanka marka la kulmayo waxa mooyaan runtii wax kale oo culus oo miisaan leh oo ka soo baxay ma jirin waana runtii arrinka dee taqriir masiiriga lama gaarin oo runtii halka lama taabanin hadda marka la isu yimaado had iyo jeer wax marka ay socdaan ee hakadu ku yimaado dib loo bilaabo waa la dib loo milcisadaa wixii hore wixii lagu heshiiyay wixii ka hirgalay wixii aan ka hirgalin wixii daraasaad ma taqaana laga qaadan karo iyo sidii loo sixi karo maxaan idhaahdaa sidii loo sixi karo wixii aan dee hagaagin haddana wax yar aan ka yara taabto sababahan isla runtii uma imida dhalin maxaan idhaahdaa wada hadalladii waxa ka mid ahaa runtii horta habka loo agaasimay oo wada hadalladu xog hayn ma lahayn ajenda lagu wada socdo oo haru loogu heshiiyay intaan meesha la imanin ma lahayn inkastoo runtii ahayd qodobo lagu heshiiyay in marka hore ajendada meel isla dhigo intaan meesha aan la imanin
cid ina dhexdhexaadinaysay ma aanay jirin turkigu wuxuunbay gogoldhig unbay lahaayeen unbaa loo kala tegayay labada soomaalida somaliland iyo soomaaliya ayuunbaa loo kala tegayay dabagal ma lahayn caalamka laftigiisu runtii halkii dee laga rabay taageeradii laga rabay ma aanay bixinin markaa waxaan rajeynaya imika runtii in arrimahaas imika wax iska wada bedeli doonaan insha allah bidnaahi alkariim waynu u gondadegi doono yacniga maxaa amuuraha muhiimka ee taqriirul masiirku ka mid yahay watahay waad mahadsantahay wasiir waxaan u gudbayaa ismaaciil maxamuud horre buuba xalkee ayay tahay wadahadallada haddii la isku gartay somaliland in dani ugu jirto in soomaaliya inay la hadasho 27 sano kadib halkay tahay wadahadallada in laga bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim inta kolka horeba kolka la yidhaaho waa la wada hadlayaa dee waxa weeyaan wada hadalkaa la wada hadlayo laba qaybood baa muhiim ah in la saaro dilmee maxaa loo fiirsado oo laga shaqeeyo siday u nijixi lahaayeen waxa weeyaan siyaasaddu sideedaba de waxa weeyaan nuxur iyo muuqaal arrinta la isugu imanayaa nuxurkeedu waxa weeyaan 61 qaanuunkii heshiiska keenay inay hadilmee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dawlad isku noqdaan ay noqdaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed labada dhinacba hadilmee way ka laabteen duruuf baana keentay horta nuxurku waa halkaas laakiinse nuxurku muuqaal buu haddana leeyahay laba darif oo wada hadlaya muuqaalka ay u muuqanayaan leen dad bay ka socdaan waa inay hadilmee jiraan waxyaalo hadilmee shuruud xadida wada hadalku siduu yahay siduu wasiirku u sheegay arrimaha hadilmee maamulka ee hadilmee in la soo wada qaado laga shaqeeyo inaanu hadalku xumaan oo productive u noqdo waxa ka mid ah hadilmee in arrimaha maamul ee labada dhinacba hadilmee maxaa haysta ee la isaga soo dhawaado taasi ma aha nuxurkii baa loo galay waxa weeyaan wada fadhiga iyo hadalka ayaa la wanaajinayaa oo loo samaynayaa atmosphere hadilmee muxuu ahaa wada hadalku uu ku noqdo productive laakiinse waxa laga wada hadlayaa labadii dawladood ee isu yimid oo maanta mid walba duruuf gaari ay haysato duruuftaa gaaraa si ay uga bixi lahayd koonfur duruuf gaaraa haysata amba Soomaaliya oo waynu ogsoonaho hadilmee muxuu ahaa jiritaankoodii baaba dhibaato ku jirta oo waxyaalo badan oo dhibaato haysta xagga Soomaaliland dhibaato haysato inkastoo ay degtay oo si wanaagsan wax u wado laakiinse 60kii hadilmee isu tagii ay hadilmee Soomaaliya isu tageen ayaa hadilmee hor yaala oo wali dawlad hagaagsan ay wada hadlaan oo arrinta si wanaagsan haddana ugu soo noqoto in Soomaaliland waxeeda gacanta ku haysta Soomaaliya ku haysto wixii u danana ay ka heshiiyaan hadilmee meeshii ma joogto sidaas aawadeed anigu waxay ila tahay nuxurka wada hadalku waa inuu noqdaa isu tagii wuu dhammaaday sidee ugu habboon aynu hadilmee maxaa sovereignty-ga aynu isku darsanay cid walba ay hadilmee maxaa haysan lahayteeda iyadoo sidaa la galay dad Soomaali aynu nahay arrintuna qusaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya ma aha mid u gaara kolka isu imanayeen waxay hadilmee rajaynayeen 5 Soomaaliyeed inay isu timaado maanta Ethiopia waa darif oo dad Soomaaliyeed degan Kenya dad Soomaaliyeed degan Djibouti dad Soomaaliyeed degan kolkaas atmosphere baba hadilmee muxuu ahaa 60kii wixii isu keenay ee ahaa inay hadilmee arrintaas Soomaali isu wada keentay maanta mid joogta ma aha dawladaha jaarka ay la leeyahayna in si wanaagsan loo wada xaalo kolkaas arrintaasi ma aha un mid Soomaaliya iyo Somaliland oo kaliya khusaysa waa mid Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya khusaysa sidaas aawadana waxay la tahay laga maarmaan bay noqon doontaa dadka Soomaalida ah ee ku nool hadilmee maxaa Ethiopia oo dawlad maanta iyagu hadilmee Ethiopia kamid ah dadka Kenya aynu ogsoonahay maanta inay yihiin dadka ugu firfircoon xagga siyaasadda ee maanta hadilmee Kenya ka ciyaaray door weyn dhici kartaba inuu qof Soomaali ka soo baxo madaxweyne ka noqdo foreign minister maanta waa Soomaali weeyaan Djibouti iyada gabigeedaba hadilmee maxaa madaxweynuhu qof Soomaali yahay arrintu
somalilan iyo soomaaliya waxa isu keenay ma ahayn wax labadoodoo keliya khuseeya waxay ahayn wax soomaaliya oo dhan wada khuseeya sidaas aawadeed aniga waxay ila tahay waa laga maarmaan nuxurka in loo daadegaa midnimadii aynu doonaynay maanta duruufta geeska afrika iyo caalamka degnaanshihiisa iyo degnaanshaha somalilan iyo soomaaliya ku xeeran waa mid loo baahan yahay 60kii in dib horta loogu noqdo laba state oo si wanaagsan wax u kala hadilmi hufi kara dowladaha jaarka si wanaagsan oo la hadli kara iyaguna hadilmi masiir wanaagsan ku wada hadli kara in yabada nuxurku waa kaasaan ila tahay in laga wada aad baad mahadsan tahay Ismaaciil Hurre Buuba waad mahadsan tahay Professor Cabdisalaan Yaasiin halkaa Ismaaciil ku dhameeyaan ka bilaabayaa Allah yarxamee Timcada wuxuu yiri berigii isagoo Cabdirashiid la hadlay markii halka yimaadeen dawlad baanu haynay danteena laba diiday aniguna tii baan yara xarfayaa gabayga baartay gabayaagii weynaa waxaan leeyahay maanta dawlad baanu haynay ma dawlad baanu naho danteena laba doontay inaynu laba dal oo mid waliba madax bannaan yahay uu yahay sababtu maxay taa u noqonaysaa waxa weeyaan dhinaca dawlad dhiska markay timaado waxa la yiraahdo nation state ama state craft ama dawladnimo la dhisayo oo dal la dhisayo inagu Soomaaliland dal dhisan baynu hayno Ingiriiski uga tagay hab dawladnimo cusub habkeeni dawladnimada cusub oo sidiisii u dhan ayaa xamaaska shanta Soomaaliyeed aynu doonaynay awgii aynu tadxiid weyn u sameyn maanta waynu soo noqonay halka haddaynu ka soo noqonay oo aynu halka taaganahay aragtida xagga kala taalaan way ka duwantoo waxay leeyihiin qolada Soomaaliya joogta sidii uu Maxamed Cali Xirsi u lahaa xildhibaanku gobol naga mid ah tihiin bay qaar badan hatta nimankan ka imanaya aragtidaas ay la imanayaan gobol naga mid ah ayaa tihiin waxay la tahay wasiirku waxa weeye wasiir intan imika yimi si wanaagsan buu u cadeeyay heelka aynu ka amba qaadayna haddaynu Somaliland nahay waayo waxaynu ka amba qaadaynaa waxa weeye in aynu Somaliland haddaynu nahay haddii hadal ba uu imanayo in waxa halka laga amba qaadayo laga hadlayaa ay noqoto Somaliland in ay tahay dal madax bannaan oo aan gobol Soomaaliya ka mid ahayn taasina shuruucba uma baahno qaanuunkii wuu inoo cadiyay qaanuunkii wuu yaala waa la cadeynaya waxa kaliya imika ay tahay in aynu kala guranaa waa sida caalamku soo ka riixayay leeyihiin caalamkuna halkaa way naga exday waayo waxay sameeyeen intii dawlado badan oo aanay waxyaabo ku xidhno waxa ka mid ah Kosovo oo waxa ka mid ah South Sudan inkastoo shiraaray gashay South Sudan laakiin inaga idinku wada hadlaba in leeyihiin inagu markaynu wada hadalno haddii ay mid ku taag noqotay inaguna dhahno waxaanu nahay Somaliland dal madax bannaan oo Somaliland la yiraaho marka horebana baadil buu ku dhisnaa midnimadii ay timi hal waxa la yiraahdo hal xaaraani nirig xalaal ma dhasho marka imika waxaan ku gabagabaynayaa hadalkayga waxa weeyaan hadday noqoto in ay ka soo baxaan wax ku oolihi wada hadalba inkastoo anigu aan ahay dadka sida runtii rumaysan in ilaa ay qoladani ay aqbalaan horta marka ugu horeysa ajendaha la sheegayo waxaynu ka wada hadlaynaa halku taagan yahay inaan wada hadalba inoo furmin haddana waxa weeye mar walba in inaga ajendaheena ugu horeeya uu yahay dawlad madax bannaan oo Somaliland la yiraahdo dawlad Soomaaliya aan la hadlaynaa ma wada hadalaa oo ma kala guranaa wixii mar iska keen galay halka in laga bilaabay noqonaysa ba tiri wad mahadsantihiin inta wad ka simantiin bay la tahay xildhibaankan u dhiibaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaynu ka bilaabaynaa inagoo ka faa'iideysanay shirarka ilaa 2012 socday waa 9 shir baynu 2012 waxaanu dhamaaday March 2015 wax weyn oo inta la soo hadal qaaday 9kaas ma jirto waxyaalaha lagu meeraysanayay ajendaha laga wada hadlayay waxay ahaayeen wax environment kan u dhisayo aynu ka wada hadallo waxaas aynu ka yaanaynu isticaayadeen aynu iskaashiga waxyaalaha iskaashanaynu isleen wax ugu weynaa laga hadlay wax ugu weynaa tii hawada waan filayo inuu 2014 ahaa iyo sidii gudiyada noocaas oo kale waj iyaguna fail garoobay intaas 9 shirba waxa environment ka la dhisay marna laga wada hadal arinta masiiriga waxaynu ka bilaabaynaa
ayaan anigu qabaa inagu dee su-aalaha dambaan filayaa inay details fara badan yeelan doonaan waxaynu ka bilaabaynaa number one horta qoladan aynu wada shirayna dad baa isu keenaya horta yaanaynu sidii noqon turkiga inuu meel uu isugu keen xidho oo inagu aynu mataqaanaa dad Soomaaliyeed iska wada sheekaysanay inagu waynu wada hadli karaa oo waynu isu tagi karaa inta taa doonayno laakiin inaga tantu waxay nagu jirtaa oo danta qaranku ay ku jirtaa in adduunyadu ayna dhex taagnaato gartaa aynu garnaqsanayno ay iyaguna wax ka soo saaraan inaga tay nagu badinaysa wata therefore horta yaanaynu isu kaliya noqon ayaana qaba halkan ka bilaabanayna waxa weeye number 1 waa inaynu isla qaadanaa Soomaaliya inaanay xukuminta aniga number 1 Soomaaliya inaanan gobol ka mid ahayn horta waa inaynu isla qaadanaa haddii taa aan la isla qaadan anigu waxaan filayaa in mushkilad keenayso siyaabaha la isu sirayaan ku sheegaya imika shirarkaas waxa hogaaminayay wasiir khaarijiga inta badan hogaaminaya wasiirka madaxtooyada saad sheegtayba iyagana waxa hogaaminaya markasta wasiirka daakhiliga macnaha ka dambeeya waxa inaga macnay noo sameynaysa wasiirka khaarijiga ayaa hogaaminayo waxaanu doonaynaa ictiraaf baynu doonaynaayo adduunyadii baynu tusaynaa in aynu doonayno in la ictiraafo recognition aynu saata iyaga markasta waxa hogaaminaya wasiirka daakhiliga oo macnaha ka dambeeya ay ahayd waa internal taas waynu soo noqon doonaa waynu sii socon doonaa wadahadallada halkaas laga bilaabi doonaa ka qaybgalayaasha aqoon-yahanada ah iyo garyaqaankan u gudbi doonaa oo intii mawduuca wixii uga baxay waxaan jecelahay mikrofoonka inuu ii gudbiyo waxaan ka bilaabi doonaa Guuleed Dafaac iyo Cabdirasaaq kadib su'aalaha xiga ayaan idiin soo noqon doonaa idinkana oo marba laba su'aalood okay bismillah waad soo koobaysaa ararta waad ka fogaanaysaa hadday su'aal tahay hal sentence baad ku soo koobaysaa hadday soo jeedin tahayna waxaad u degaysaa nuxurka markiiba bismillah raxmaan magaciigu waxaa jaac anigu waxa ma soo jeedinayo su'aal la weydiin maayo waxay tahay martida sharafta leh waxaan xoojinayaa wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ma yihiin macquul ha according to my opinion way waayo koonfurta South Sudan iyo Sudan markay kala go'ayeen anigu waan joogay dee process bay mareen runtii processka mareen wuxuu ahaa referendum bay mareen petition bay mareen oo process ban international community-guna way dhexdhexaadinayay runtii markay shuruudihii buuxiyeen ayay loo ogolaaday inay go'aan iyadoo ay international community-ga iyo maxay tahay qoladii daneeyaasha ay runtii ay support garinayeen teen waddankaynu jaarkana Soomaaliya in aynu la hadalaa danteena ku Soomaaliya waxa ku mahmahdaa maqaar baa loogu sixdaa dantaada maqaar eeybi tirada ha saasaan maleynayaa waynu la hadallo way tahay runtii intaasaan ku soo koobay insha Allah billahi inay la hadallo way tahay wad mahadsan tahay Cabdirasaaq bismillahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa inaan su'aal aanan u kicin marka hore laakiin aan doonayo wixii aan ka fahmay ama aan ka bowsaday oo ahayd muddo la wada hadlayo 6 sano ahayd 2012 ilaa maanta in lagu wada hadlayay saaxad bilaasiyay wala ah sida uu sheegay wasiirku oo ahayd aanay cidi dhexdhexaadinayn ay wada hadlayeen uun wasiirka Soomaaliya oo la Soomaaliya waa naga mid iyo Soomaaliland oo la Soomaaliya kama mid nihin labadaas un ba wada hadlayay su'aasheedu waxay tahay markaa hadaba wasiir haday xaaladdu sidaas wasiirkaan ku socotaa wata suurtagal ma tahay in mar 2 sanadood oo dambe aad wada hadashaan Soomaaliya wasiirka ka socda idinka oo ajendaha uun soo saaray ama sidii walale ama bila ajenda oo labada mid maqan yahay su'aasha labaad waxaan u leexinayaa in maxaa la dhahdaa in hadi shasur hallo Ismaaciil Buuba Ismaaciil mushkiladda Soomaaliland ka jirta waxa kamid ah in Soomaaliland dal dhameystiran aanay ahayn dhul ahaan iyo dad ahaanba qaybna waad ka ahayd asaaskeedii dabadana intii dambe adaa kamid ah dadkii hayay ma laga yaabaa weli in dhibaatooyinka aad abuurteen ay Soomaaliland weli dib u soo hayso mise waxaad leedahay arrinta waanu ka dhama noqonay oo waxaan u soo noqonay Soomaaliland oo mida ee waxa ka maqan waa dhul una dad maaha labadaas su'aalood baan weydiinayaa labada in sharafta tawasiirka horeysay horta waa runa way jirtay in muddada 6 sanadooda 9 kulan ee yeelanay waliba tobaab noqonay hadii lagu daro mid qolada ma taqaan hawada yeelatay sanadkiina soo dhaafay dabayaaqadiis inaynu inakuna aynu ahayn inuu wada hadlaynay oo kaliya saddexda wadan ee aanu ku qabanay shirarka iyagu gogol un bay noo dhigeen mediator may ahayn arrinkaas runtii waxyaabaha inuu baahan in wax laga bedelo imanka
waayo dee wixii aad ku soo socoteen muddada badan haddii ay shaqayn waayaan waa inaad wax kale uga gudubto innagoo weliba ka mataqaana ka waarinimo qaadanaynaa waddamadii soo maray xaaladan oo kale iyo sidai arrinkooda ku dhameeyeen sidii imka laga sheekeynaya South Sudan iyo Suudaanba waxaynu u baahannahay cid inay dhex joogta ayaynu u baahannahay weliba wixii lagu heshiiyo waxaynu u baahannahay cid iyadu damaanad qaada ka damaanadaas runtii markii hore ma aanay jirin marka waxaan rajeynayaa haddii amuurahaas ay waxsaas isaga bedelaan in aynu ka wada hadli karro go'aanna ka gaari karro arrimaha runtii adag ee masiiriga ah inuu si runtii saas baan qaba taasuna iyagay u dan tahay innakana waa inoo dan weeye iyagu la'aanteen runtii constitutionkoodana ma dhammayn karaan dowladdoodana ma dhammaysan karaan xaaladooduna ma taqaanaa ma dhammaysan karaan marka labadeennaba dan baa inoogu jirtaa inaanu ka wada hadallo layna dhex joogo ya oo inakoo markaa adeegsanaynaa dad arrimahan dee u fara dhuudhuban oo khubaro dee lagu yaqaano wata wasiir waa su-aashiina ku weydiiyey ismaaciil hurre buuba بسم الله الرحمن الرحيم horta sideedaba Somaliland annaku dabada ma nuhayn ee galbeed nuhayn waxaan nuhayn group badan oo u arkayay in masiirku wada joogis iyo kala tegisba ay hadilmiye u baahan tahay labadii qaybood ee 60kii isu yimid inay ka wada hadlaan ay meel ka wada iska taagaan sidaas aawadeed kolnaba aragtidayada siyaasadeed Somaliland mid ka hor imanaysa ma ahayn laakiin si qaabka loo maamulayo Somaliland iyo sida hadilmiye xoogadaanu hadilmiye isku diidnay iyadoo sidaas tahay oo aanu hadilmiye arkaynayna labadii qaybood inay wada fadhiistaan ay wax ku wada heshiiyaan qaybtii aanu hadilmiye muxuu ahaa arkaynay inaanay meeshaba joogin de waxay ahayd koonfurta waxay ahayd Soomaaliya may jirinba kolkaas waxaan xusuusanahay intii aan carta la tegin odagaan hadilmiye Cabdiwaraabe oo noogu yimid Jidda oo odayaal badan oo Soomaaliyeed oo ka yimid dhinaca Soomaaliya dhinaca Djibouti dhinaca Ethiopia ayaa odayaasha hadilmiye Cabdi ay weydiiyeen su'aal ay leeyihiin war maxaa hadilmiye maxaa Soomaali uga goosateen wuxuu ku jawaabay oo horta cidda leedihiin dhinacii Soomaaliya ciddanu ka goosanay waa kuwee haddaanay jirinba cid kamaanu goosane wuxuu baanu aragnay hadilmiye waxoogaga iyaga aan isku soo hagaajino aanu yagleelano sidaasay horta Somaliland ku timid arrinta aynu ka hadlaynay hadilmiye ictiraafka labadii isu yimid ayay ku xidhantahay inay kol labaad si wanaagsan uga heshiiyaan dad fara badan oo aanu siyaasiyan si wanaagsan hadilmiye muxuu ahaa isu fahamnay oo Soomaaliya joogta ayaan caawa leeyahay iyaguna waxay u arkaan dantoodu inay hadilmiye maxay tahay labadii 60kii isu yimid ay maantana intay wada fadhiistaan dhinacyada iska taagaan mid walba hadilmiye dawlad iyada u gaar ah hadilmiye wada aasaasan oo wada shaqeeyaan waliba taasi waxay ku timid muddo dheer oo hadilmiye muxuu ahaa kalsooni iyo dad Soomaaliya oo kolkii horena wanaag isu keenay maantana ay tahay wanaagu ku jiro inay hadilmiye labadii iyaga oo ay mid walba hagaajistaan maantana arrimaha ka taagan khaasatan Soomaaliya ilaa Somaliland ay hadilmiye ictiraafkeeda iyadoo haysata oo lugaheeda ku taagan ay iyadu tagto ay wax ka qabato Kenya iyo hadilmiye maxaa Ethiopia midkoodna kama qaban karo sidaas aawadeed horta arrinta siyaasaddu sideedaba waxa weeyaan waa stage baa la soo maray maxaa halkan hadilmiye dhibaatada ay tahay maxaanu diidsanayn waxaanu diidsanayn ictiraafka waxyaalaha hortaagan ee ka mid tahay بوليسكا أيو عيدن كسومالان أفري لواتن سنو هود بالسمي إيو وحنو كقوصن الصوماليا تاسي موحبي كينيسا مس وحبي راتينيسا واتهاي واد ما سنتهاي إسماعيل ناد ما سنتهاي إن هكا إدي مدن تبغون نقولنا وحبي مجالي موضوع أنا كنت سأعون دونا إسلادي كان كاسي بلا بيا سوماليلان
iyo Soomaaliya ma in la wada hadal siyaaba mise waa in iyagu ay wada hadlaan oo la isu daayo hadday noqoto in la wada hadal siiyo waa ayo cidda ugu habboon ee wada hadal siin karta sideedaba labada wada hadlaya waa Somaliland iyo Soomaaliya ciday ku xidhan tahay 60kii iyaga ay isu tagay oo mid kasta dawlad ay tahay dabeedna yidhi hadii mi caalamka sovereignty-ga waanu isku darsano waxaana la yiraahdaa dawladda Soomaaliyeed amba jamhuuriyadda Soomaaliyeed kolkaas caalamku wuxuu sugayaa inay labadii wada fadhiistaan oo maanta dhibaatooyinka ku xeeran labadaba dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Soomaaliland si looga bixi lahaa inaanay hadilmay iska laadlaad aan waxba qabsoonahayn oo waliba ay isu baahan yihiin midkoodba kale inuu caawiyo sida kaliya ku noqon karto inay hadilmay caalamka wax macquul ah ula yimaadaan waa laga maarmaan kolka hore inay labadu wada fadhiistaan labada in labadooda kale ay ku bilaabanto bahasho caalamku laakiinse kama maarmi kartid oo waxa loo baahan yahay Somaliland mowqifkeeda ay ula tagtay Soomaaliya inay u sharaxdo caalamkana khaasatan dawladaha jaarka ee geeska Afrika waxyaalaha ka soo baxa wada hadalkaasi sidaan horeba wadi inagoo kaliya khuseyn maayaan waxay khuseynayaan Ethiopia waxay khuseynayaan Kenya iyo hadilmay geeska Afrikaba sidaas aawadeed arrintu inkastoo ay tahay dadka wada hadlaya inaka laakiinse Somaliland mowqifkeeda waa inay si wanaagsan u sharaxdaa oo dawladaha ka dhaadhacsataa waxay la tahay waliba taasi inay tahay mid geeska Afrika u keenaysa degnaansho iyo barwaaqo iyo horumar Somaliland iyo Soomaaliya waxaad aaminsantahay marka iyagu inay wada hadlaan oo kaliya oo loo kala baxo mise in cid dhexdhexaadi ay jirto oo labadooda dhexdhexaadisa sideedaba wada hadal kolka hadilmiye maxaa ay tahay waa iyaga labadooda weeyaan hadilmiye dawladaha kale waxa la yiraahdaa hadana iyagu heshiin de kuma khasbi karaan sidii 60kii iyagoo laba dawladood ay intay isu tagaan dawlad kale noo aqbala imikana hadilmiye mid walba dawladnimadeeda caalamku waan ku soo noqonaya aad baad maasantay wasiir mudane wasiir maxaad kaga duwan tahay aragtida oo Ismaaciil Buuba qabo Somaliland iyo Soomaaliya markii horeba iyaga cidimo wada hadal siinay waxay tahay in iyagu ay wada hadlaan oo cid soo dhex gasho dhexdhexaadisa aanay jirin bismillaahir rahmaanir rahiim horta wada hadallada noocan oo kala ah dhowr siyood baa loo galaa mararka qaar kood labada daraf ma wada fadhiistaan ismana arkaan cid baa u dhaxayso oo kala dab qaada mararka qaar kood way wada fadhiistaan laakiin waa la saddexeeyaa mararka qaar kood iyagu baa marka hore wada shira hadii uu arrin yimaado isku afgaran waayana markaas la soo dhex galaa lagu dhexdhexaadiyo horta inagu wada hadalka waxaynu ka bilownay inagoo laba ah inaynu soo fadhiisano halka runtii aad moodo in dhalisho ay ka timi oo ay u midho dhali weyday waxay ahayd waxaan jirin wixii aynu ku heshiin weynay cid inagu dhexdhexaadisay ambaba waxaynu ku heshiinay cid markaa markhaati ka noqotay oo iyaduna ma taqaanaa dee inagu daba gashay taasaan jirin marka imika wada hadalku dabcan halkii muddo ka bilaabmaya inaka wada hadlayna Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlay oo waxa laynagu dhexdhexaadinaya wixii aynu dee aynu ku heshiin weyno laakiin iyaga inay tahay la isu daayo bilowga inaka dee wada hor inaka soo fadhiisanayna oo wada hadlayna wixii aynu ku heshiin kari weyno markaas ay noqonaysaa maxay cid kale inay timaado xilligii hore waxa ku jiray wada hadallada Turkiga iyo Djibouti doorkooda muxuu ahaa iyaga marka gogosh ma dhigi jireen waxay fududeynayeen jawiga iyo meesha lagu qabanayo iyo dee maxay dhahdaa socdaalka iyo waxyaabaha caynkaas facilitators waa tay aragtidaada wasiir adigana waxa weeye in ay iyagu wada hadlaan oo loo kaliyeeyo oo aan cid dhexdhexaadisa jirin waxaan ku yiri marka hore iyaga wada hadlaya laakiin waa lagu dhexdhexaadinayaa wixii iyagu marka ay meel isla dhigi waayaan taas ma jirin go'aanka cid baa u yeedhin doonta taas baan jirin u yeedhis maaha dee habba jira ma taqaanaa maxay dhahdaa loo dhexdhexaadiyo habka dee hab dhaqanka loo dhexdhexaadiyo xaaladan oo kale ayaa loo dhexdhexaadinaya ayaa la raacaya laakiin innaka taqriir masiirkeenu meel buu inoo yaalaa khaasan markay timaado arrinka Soomaaliland waa arrin historia weey isagu ma aha arrin dee halka laga hadlayo arrimada qaar halkaas lagu dhameyn karaa maxay dhahdaa in lagu soo celiyo madaxweyne ay u baahnaanayaan
arrimaha qaar waxay u baahnaan in baarlamanka la keeno bay u baahnaanayaan arrimaha qaarna waa constitution soo celiyo marka midba waa heer weeye aad baad mahadsantahay wasiir waan kusoo noqon doonaa professor cabdisalaan yaasiin aniga waxay la tahay in wadahadalladan haddiiba sidii hore aan uli anigu waxaan qabaa in ay haddaynu gelayno wax cad oo aynu ku gelayno lagu bilaabo adduunka inagu imika ma nihin dadkii ama isu taga ama kala taga xataa aynu afrikaanka oo keliya soo qaadno senegal iyo gambia ayaa intay midoobeen haddana kala noqday waxaa kala noqday masar iyo suuriya ayaa intay isu tageen oo waddan isku noqdeen haddana kala tegey inagu ta suudaan waynu ka duwanoo suudaan dal midaysan buu ahaayoo laga goynayo dal laakiin inagu laba daloo isu tegay sidaas senegal iyo gambia ayaynu ahayn ama masar iyo suuriya muddadiina hadday iyaga dhowr sannadood ahayd inaga qudheena ma dheeraano waa 30 sannadood 27 sannadoodna imika waynu kala maqannahay marka waxaan qabaa siyaasadda isu tagga iyo kala tagga iyo oo adduunka oo dhan baa imika ka soconayso German baa intay kala maqnaayeen isu yimi ruushkii dawladdii Soviet Union la oran jiray ayaa kala wada baxday oo dawladda gaara kala noqotay marka wax caalamka ka jira oo suuragal ah way inaga teenuna qawaaniin bay dhinacna kaga dhisantay dhinacna waxay kaga dhisantay xaqaa'iq imika jiro oo dhulka yaala xaqaa'iq dhulka yaala waxa weey kuwan imika sida aynu 27 ka sanad u kala maqnayn qaanuunkiina waxa weeyaan aynu doonaynaa inaan ku kala baxnaa waa kan yaala ee marka horeba badmadowga badani ku jiray ee meelana kaba cad inaynu laba dawladood oo midoobay aynu nahay oo kala guranaya haddaba halkii imika wasiirku yidhi sidii aynu berigii horeba caadifada ugu tuurnay dawladdii aynu lahayn xamar inagoo aan si wanaagsan uga baaradigin ayaynu markanaynu wada hadallada gallayna u gallay inagoo aan qaab wanaagsan oo cilmiyeysan oo dad loo saaray oo laga baaradigay oo la qoray aan lagu gelin tina maxay nagu keentay inaynu ku jirno uun wax aan sida runtii midho dhalahayn iyo dawaamad xoog leh haddaba wasiirku isagoo maanta wasiirkii buugaag badan oo anigu aan kala shaqeeyana qoro xagga qaanuunka hadday tahay iyo xagga dilkii inagu dhacay ee ay laynoo geystee layna xasuuqeen labadaba ay tahay waxaan ku gaba wada hadalkaba waatan u soo socdaa nimka sheegaya wada hadal aan cidi goobjoog ka ahayn anigu xataa wasiirku waa kii yidhi marka hore aynu wada hadalno anigu waxaan leeyahay mudane wasiir wada hadalka dambe inoo furmaya horta meel dhexdhexaada oo aan jabuutina ahayn turkina ahayn meel kale oo meesha lagu qaban doono waa inoo soo waa inay noqotaa sidii wasiirku Switzerland baanu weydiisanaynaa horta inuu taan noqdo waa kow laba Switzerland waa inay goobjoog ka ahtahay oo ajanduu noqdo qodobka ugu horeeya maxaa laga wada hadlayaa waxaynu ka wada hadlaynaa waxa weeye inagoo laba dawladooda oo 60kii isu tegay siduu professor Ismaaciil sheegay oo imikana kala guranayna waad mahadsantahay xildhibaan maxamed xirsi baan u dhaweeyay xildhibaanka bismillahi raxmaani raxiim horta waa inaynu ka faa'iidnaa wax sagaalkaa shirayna soo maray ha wareegta garaantu haddaynu ku jirno waa mushkilad waxyaalaha aynu ka faa'iidnay waxaa ka mid ah ugu weyn ee uu shirkaasi wadahadalkaasi u feelgaroobay waa cid baan inagu dhex jiray sidaa wasiirku sheegay cid buuran oo ina sukeen soo jiida baan meeshii jirin ha la bilaabo ha lagu bilaabo oo inagu aan soo fadhiisano anigu waxaan qabaa inay failure kale soo socda ay tahay waxaynu doonaynaa waynu garanaynaa waxaynu doonaynaa inagu ictiraaf waxa iyagu doonayaana waynu garanaynaa waxay leeyihiin walaalaheena Soomaaliya cadhooday aan dib soo celino aynu isku dawlad noqono iyaguna wada arrimahaas waxyaalaha qaarkood go'aamo kama gaari karaan waxaan xusuustaa shirkii horeeyay in goonistaaga dib u dhigay yiraahdeen oo dib inooga dhiga arrinta anigu go'aan kama gaari karne maxaa laga wada hadlayaa mar haddii arrinta aynu doonaynaba aan go'aan waqtigaa laga gaari karin anigu ma qabo in hawreeti garaanti lagu jiro ma qabo in Soomaaliya inta soo hor fadhiisano labadeena la isu keentay ma qabo in waxaan si qabaa in shantaas sano wixii lumay adduunyada weyna arkaysa shirku wuxuu ku burburay riisku burburay waa la arkay ma jiraan baan wasiirka weydiinayaa dawlado sympathy haya oo arkay wixii qaldamay oo imka diyaar inoo ah in ay arinta gacanta geliyaan
haddii aanay jirin oo still ay tahay in Soomaaliya iyo Somaliland aan sidii horeba isu hor fadhiisano waxaan qabaa in ay still inagu adkaan doonto another 5 years ay inaguna taa diyaar uma nihin waxaan anigu aaminsanahay in dawladda waaweyn oo taariikhiina yaqaana oo dawladdeena ictiraafaya oo iyaga yaqaana oo dana ay labadood dalba kaga xidhan yihiin inayna dhex fadhiyaan oo aynan ka yeelin inayna dhageystaan laakiin aynu ka yeelno oo aynu ku influence karino dawladahaasi inay waxyaalaha qaarkood ay isu kala soo jiidaan waxyaalaha qaarkood ay inoo gooyaan waxyaalaha qaarkood laakiin ma qabo anigu in aynu sidii soo hor fadhiisano waa tahay waad mahadsantahay xildhibaan waa tahay su-aasha xigta baanu gudbi doonaa oo barnaamijka ayaanu doodwalayaad si toosan ogala socotaan oo ku saabsan wadahadallada Somaliland haddii ay noqoto Somaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan wadahadalladii hore ee Somaliland iyo Soomaaliya ay wada galeen marxaladaha kala duwan soo maray Somaliland xiliyadii dambe waxay ku andacoonaysay in oo sababii istaajiyaba ka mid ahaa in Soomaaliya ay carqaladaysay wadahadallada oo ay ku soo dartay dad dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland iyay tahay in ay wada hadlaan oo labada dhinac ay ka socdaan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaan ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaynu ku wada hadlaynaa waxa weeye waa jamhuuriyadda Somaliland iyo federaalka Soomaaliya ama Soomaaliya ayaynu ku wada hadlaynaa cid waliba iyada soo magacaabanaysa xubnaha uga qayb gali doona wada hadalka haddii xubnaha ay qola soo dooratay ay maxaan idhaahdeen ay muujinayaan qolada kale inaanay runtii aanay dhab ka ahayn daacadna ka ahayn wada hadalka dabcan dee wada hadalku socon maayo cidda loo soo magacaaba darajada ay leeyihiin iyo halkay ka socdaanba waxbay ka sheegaysaa in qolo waliba sida mataqaan uga go'an tahay inay ka midha dhaliso amba inay ka midha dhalaan maxay idhaahdeen shirku marka waxaan rajaynaynaa in qolo waliba cid ay wax ka go'aan oo haysata kalsoonida madaxweynayaasha inay yimaadaan waxaan jecel inaan ku yaro noqdoon halkii maxay xildhibaanku intuu yiri horta habkii markii hore aynu wada kulmeynay wuxuu ahaa hab ku salaysan facilitation amba fududayn amba gogoldhig imka habka waynu ka guureynaa waxaynu u guureynaa habka mediationka aynu u guureynaa maxaan idhahdaa dee cidina dhex joogto marka ma aha micnaheedu inaynu halkii sidii hore ku noqonayno oo dee taa hore waynoo midho dhali weedi oo tan in goob joog cid ay ahaato waxaa keenay maxaan idhahdaa taa aynu ku feelgaroonay markii hore amba aynu dee ka gaadho weynay go'aan watahay Ismaaciil Hurre Buuba baan u noqonayaa iyay tahay wada hadallada in ay ka qayb galaan oo labada dhinac ay ka socdaan shuruuduhu maxay noqon karaan ay tahay in ay wataan cidda wada hadallada ka qayb galaysa sidaan horeba wadi wada hadal kastaaba oo kana ka mid yahay wuxuu leeyahay muuqaal iyo nuxur wixii muuqaalka hadilmiye taabanaya nuxurka ee hadilmiye wax kharibaya waa in muuqaalka laga daaya sideedaba ma aha mid innaka iyo hadilmiye Soomaaliya oo kale dadku ku wada hadlayo waxyaalaha hadilmiye maxaa ahaa dhibaato gelinaya nuxurkii laga hadlaya arintuna runtii halkay mushkiladu taagantahay waxa weeyaan shirarkii hadilmiye jiray wuxuu baahayeen shirar muuqaal ah oo nuxurba u daadegin ساس أودت بعد المية علوس أو بالله نقطي إن شراركي هالدلمية حق الصومالية يكسر درتي ده هالدلمية محاها كسر شيء ذا الصومالي لان والنحر إنه هدي واحد مقالك لكن النحر كهدي محاها لسلاءه ده إيه جابان كسر درين ده هالدلمية محاها الصومالي كسر شيء ذا كل نحر كي هاي كوبي اللي حرقنا اللي حرقنا ستجي مانتا أم بهن نقطة الصومالية أم بس Somaliland ما شقينا يو سيدنا وجورينا ده أنتم محي كتيرته أنا وحي لا تهاي هل كي مشكلة دو تالي وحي هاي نحر كون لو دادجين إلى نحر كلو دادجنا وحبها دلمي لمان مايان تكلا دتك إحدى حالينتو waxay noqonaysaa hadii ma qaadanaysaa capacity international ah dhexdhexaadinta waxa badi gala organization ka sida United Nation ka waxa weeyaan OAU da
waa arrin haddii miye muxuu ahaa ay soo dhex galaan kuwaas laakiinse badi bilateralka wax la yidhaahdo dowladda kale dowladdu facilitation ay kuu samayso iyo behind the scenes haddii miye muxuu ahaa wada fadhiga ma aha laakiinse qurxinta ay qurxinaysaa inay haddii miye isu soo jiido dadka mooye soo dhexgal badi ma laha kolka haddii miye dowladda iyadu ay fidiso laakiinse arrintu haddii la doonayo mediation inuu dhaco dee waxay noqonaysaa Somaliland inay ka shaqayso organizationska sida amba United Nationka amba haddii miye muxuu ahaa OAU-da amba haddii miye Arab League amba haddii miye organizationska kale ka sii hooseeya waliba haddii miye muxuu ahaa khaliijka oo kale ah sidaas aawadeed waxay la tahay arrintu waxay u baahan tahay nuxurka in loo daadego taasaa Soomaaliya iyo Somaliland badan u jirta inta laakiin se haddii miye yaa meesha tagaya sidoo kalena arrin baan haddii miye aanu jeclaan lahaa kolka arrintan la qabanayo dhinaca Somaliland waxaad ka hadlaysaa waa arrin labadad oo 60kii isu tagay oo imika ay dantooda labadoo ku arkaan inay haddii miye muxuu ahaa inkastoo dhinaca koonfurta ay haddii miye arrintaas wali ka qasan tahay dowladdu khaarijiyadeenu badi arrintaas u idmaganaa waanan garanayaa wax sidaa u dhacayso wasaaradda arrimaha dibadda ayaa loo igmadaa laakiinse aniga waxay leedahay arrintaas wasaaradda daakhiliyaddu iyo bulshada rayidku labaduba inay haddii miye ka qayb qaataan waayo dadka ka imanaya koonfur dee dad bay masilaan dadkii ay masilayeen haddii aana taaban oonad wax ka dhaadhacsan oo aad haddii miye istiraahdo oon haddii miye meel baa la isugu tagayo dabeedna wixii halkaasay ku dhammanayda arrintaada waa inay noqotaa mid dadka degan Soomaaliya ay arkaan inay dantoodu ku jirto taasna haddii miye bulshada rayidka iyo wasaaradda daakhiliyadda Somaliland أنا وحيلة إن لبده كل يهين دور علوس كل يهين وأيو ذاتك القنعين يسمعها هون أنت هدي شركة كوجت ماذا ذاتك يقدم بي مسيلين بعضو بحنتين هذا المية جنا قنعيسو سيدا أديك بالله ترى جرين يو إني هذا كوجو قنعيان كل كاس أرنتو وحيو بحنتهاي كل نحر أنا ويشرتي habka hadilmay loo maamuuseen bal loo hadilmay agaasimay wada hadalkana dhinaca Soomaaliland aniga waxay la tahay in mid madow badan ku dad maadsan tahay waan ku soo noqon doonaa Ismaaciil Professor Absilaan Yaasiin baan u gudbi doonaa oo yey tahay inay wada hadlaan oo ay ka kala socdaan Soomaaliland iyo Soomaaliya haddii wada hadallada ay dub bilaabmaan waxay la tahay taasi waa muran kuma jiro oo waa muran badan weeyaan sababtoo ah Somaliland dadkeedii iyo dawladeedii waa la yaqaanaa Somaliland waxay ku samaysatay heshiisyo caalami ah oo Ingiriiskii ay la gashay oo dadkeedu la galay xuduud caalamiyana waa loogu sameeyay xilligaasi la aqoonsaday ilaa aynu inagu fudaydkeenii aynu kula tagnay in aynu midnimada Xamaas ku wareegeynina waa la inoo aqoonsanaa in aynu nahay dadka dawladnimada iyo xuduudka iyo heshiisyadaas leh maanta haday noqoto wixii aynu bariga gefka ku galay iyadoo shan Soomaaliyeed la doonayay shan Soomaaliyeedna aanay suura galaynin dunidana ma ogola inay samaysanto shan Soomaaliyeed mana samaysmayso labadii marka ay isu tagay waxa weeyaan isku wada milmi karaan oo marka tidaamka waxa la qabanayaa wada hadallo way jiraan dad wasiiraha Somaliland ka soo jeedo oo xamar qabta sidii markii hore dhacday hadii la yiraahdo kuwaas lagu soo daraya de uma jeedaan marka qoladaasi in la wada hadlo iyagu waxay u arkaan Soomaaliya waxay u aragtaa Somaliland inay gobol mid ah Somaliland gobol ka mid ay tahay aniga waxay la tahay in ay si aan wax alla wax mugdi ku jirin oo cad marka hore loo dhigo dadka loo xulayo waxaynu wada hadlaynaa annagoo Somaliland iyo idinkoo Soomaaliya dadkiini Soomaaliya la oran jiray
markaynu lixdankii isu gaarka ah tagnay ee wada hadalka galaysa Somaliland oo la wada hadalka gali mayso Turkiga tagi mayso cidda gaarka ah ee wada hadalka loo igman karo si hadhowto aanay Somaliland oo dhan dad baa lagu soo dara wakaade kan ku cadeynaya waxaan ku leeyahay Soomaaliya markii lixdankii wixii la isu tagay la oran jiray dadkeedii oo la yaqaano in ay dadkaas yihiin dadka Soomaaliya u hadlaya Somaliland dadka u hadlaya yihiin dadkeedii markii lixdankii xuduudkeedii ku jiray inay u hadlayaan oo aan wax la isku dhax qaldo oo aanay jirin kow waxaan ku dhamaynayaa oo kale eeg imika dunida waxa jira wax la yiraahdo wadamo intay wada goosteen wali laalaada states in limbo inagu waxaan doonaynaa kaliya haddaynu wax ka doonayno in aynu maanta wada hadallada aynu ka helnaa aan qabana in aynu sideedaba u heli karayno haddaynu u dadaalo mar walba inoo bannaan waxa weeyaan waa kaad ku bilowday aqoonsiga ahaa marka ayaga aqoonsigeennu ma aha inuu marnaba ku xidhnaado wada hadallada lafteeda waa tahay waan ku soo noqon doonaa xildhibaankaan u gudbi doonaa adoo soo koobay xildhibaan waxaad kaga duwan tahay inta ah Somaliland yaa uga qayb gali karaa Soomaaliya yaa uga qayb gali karaa Soomaaliya saawada sheegay ma ku raacsanahay in ay labada qole wada hadlayaan noqdaan Soomaaliya Somaliland 1960s aanu la isku soo xaltamin waxaan qabaa intaas imika aynu ka hadlaynaba go'aanadii hore way ku jirtay shirarkii wuxuu ku burburin waxay markay ka baxeen ee ay iyagu ku soo tarsadeen buu burburay laakiin marka hore qodob kamid ah waa filaya xagga Somaliland yaa hadal doona anu waxaan qabaa su'aasha sama iyaga laftigooda inay qeexno Somaliland wada hadlayso waxaan qabaa arrintan waa issue qaran maaha in aynu inaga laftigeenu hoos u eegna maaha waa issue qaran oo ah shacabka reer Somaliland maxaafid iyo macaaridba mid golayaal ku jira iyo mid aan gole ku jirinba mid shaqeeya mid aan shaqeyn bayna isku raacaan waa arrin ah inaynu wada ilaalino ayaan qabaa waa arrin ah inaynu isku daba taagno dawladda iyo go'aankeeda iyo ciddii ku hogaamiso waxaan qabaa dawladduna inay gogasha ballaadhiso oo ay maxaafid iyo macaaridba guddidaa la samayn doono gud ay noqoto aanay noqon wax maalintaa la dhoofiya uun la magacaabo laakiin ay noqoto guddi joogto ah oo ka kooban dhammaan bulshada qaranka ay ku jirto xisbiyada mucaaridkii ay ku jiraan muxaafidku ay ku jiraan golayaasha baarlamaanku oo ah wax loo wada dhan yahay oo aan cidina la siyaasadin oo la kirtisaas karin laakiin meel lagu soo wada jeedo waa very serious arrintan mar labaad haddii la bilaabayo waa arrin aynu doonayno inaynu ku hogaamino in aynu ictiraaf dhaba ku helno maadaama intaa is doonayno waa inaan la arkin macaarid ka hadlaya oo kirtisaas karinaya waa inaan la arkin golayaasha oo kirtisaas karinaya waa inaan la arkin shacabka taasina waxay ku iman kartaa wax dhan oo loo dhan yahay oo la wada qoro oo la wada dirso oo la wada dabadeed la jeeyo wasaaradda doonaba guddoomiyaha looga dhigay ay noqoto cid hogaaminayso ay dawladda ku hogaaminayso hareeraha laga wada fadhiyaan qabaa waa tahay waad mahadsantahay xildhibaan dadweynaha igala soo qayb galaya garyaqaanada iyo jaamacadahan u noqon doonaa garyaqaan guleed Axmed Dafaac marka hore waan salaamay wasiirka iyo madaxda kale anigu waxaan u arkaa wada hadalladu waa la isku raacsan inay fashilmeen waxaan u arkaa inay fashilkoodu ku bilaabmay qaabku u bilaabmayba inuu ahaa inuu fashilmo marka hore sababtuna waxay ahayd hadda dawladda halka laga sheegaya waa versionka Somaliland sida inagu u aragno sida wax u jiraan laakiin xamar opposite-keeda yaala dawladda Soomaaliya marka labada dawladood ay saa u kala fogin markay isla yimaadaan in natiijo ka soo baxda way adag inagu waxay leenahay gooni staag baa noqono dawlad madax bannaan baa noqono inagu waxay leeyihiin dalkii baa rabshaday ku dhacday dib ha loo unko dalkii ayaa laynoo arkaya marka horta inaynu eegnaa versionka dhinaca kale yaalo inaan sakran dawladdeena haddii sidan loo akhrisanayo mar hore inuu ictiraaf leeyahay marka labada dawladood la isugu yimaado dawladda xamar ee farmaajo jooga awoodu ma leh mid sharci iyo mid siyaasadeed toon inay Soomaaliland ictiraafto dib soo dhawaado gebigiisa waxa lagu ilaaliyaa meel yar baa lagu ilaaliyaa wuuna ogyihiin 300 qof doorteen marka Soomaaliland kuma oran karo waan ku ictiraafnay marka haddii farmaajo ka raadin inay ictiraaf dee inama siinayo waanu ina siin karinba gacantaanu ku haynin marka horta halkaas uu ku fashilmaya wada hadalku haddii uu soo dhawaano tal laga hadlayo dhexdhexaadinta haddii dhexdhexaadinta mediation looga jeedo wax weyn kama duwana negotiation oo dib badan ma keento oo qofka mediator-ka uu si soo jiidaa dadka isagu go'aan ma gaaro oo de arbitration ma homeland ma inay arbitration gelino waxa xal la heli kara oo wada hadalkaasi natiijo sax ka bixi kartaa haddii labada dhinac midkood dadkiisa khiyaameeyo haddii farmaajo Soomaaliya khiyaaneeyo waxa ka iman kara haddii dawladda Soomaaliland dadka reer Soomaaliland khiyaanatona natiijo waa ka dhalan kartaa sababtan saawlay maxay tahay dadka reer Soomaaliland majority-giisu wuxuu aaminsan yahay goon istaag inaan laga noqon karin
marka wasiirka yoftigiisu wax ka duwan ma sheegi karaan dadka Soomaaliyeed majority-giisu waxa aaminsan yihiin Somaliland inay ku soo noqoto Soomaaliya oo dawladda dawladna halka idin la shir doontaa wax ka duwan ma keeni karto marka anigu waxaan leeyahay wasiir miyaanay noqon karin ila consistency-giini baa kala duwan hata haddaad u fiirsataan shirarka jaraa'idda la qabto marka wada hadalku dhamaado qofka Soomaaliland u matalayana wuxuu yiraahdaa ictiraafkii baa soo dhawo wada hadalkeenani wuxuu inoo dhaweeyay ictiraafkii ka Soomaaliya u hadlayana wuxuu yiraahdaa wada si VOA ama BBC bay ka hadlayaan Somaliland tibaanu soo jiidnayo Soomaaliya way mid labaysaa way consistency-gooda la hadlayaan idinkuna annaga nala hadlaysaan iyaguna dadka xamed jooga bay la hadlayaan marka waxaan isleeyahay ictiraafkii way fogeynaysaa oo wasiirku halku kaga mashquul lahaa arrimo kale wax biisi ku noqonaya inuu la hadlo niman weligiis allihii toole ictiraaf siinayno waa mahadsantii واتي إسرائيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قحل إليها رجب إسماعيل صالح قريقام بانا هاي كم إذا قريقان هذا السوماليلان وزير كان رباينا السؤال ويديو مدن وزير كنت هرت تدال بدن بات سميسي لاحد وقرن كان يجمهورية السوماليلان هاد ميل والبو مرتي ساد اعتراف كوكين لهذا الحمد لله ميل وناكسرنا مانتا واد مرنا يسا هير إنه هشيسي عالمية قلنا ومعلم بهشيس عصبين قلنا تاوان كوكم هاد علينا يا مركوبات من لا يشكر الناس لا يشكر الله قف كان إلهي دad كانوا مهد علين إلهي وما مهد عليو تكله واحد شراء دولة بدنو نحيسينيا وإنه باهن وإنترسنا سي أي أجر معناها وده هذا الله ذي كلام بيحسينيان دولة بدنو السوماليلان حسينيا باجر والربا إني أما قعن سيان أما وده هذا الله السوماليلان أي أفران بيج waxaan wasiir ku weydiinayaa anu waxaan ka mid ahaa dadkii soo diyaariyay wada hadallada tiraba dhowr wadan su'aashu markaa waxa weeye waxa ka mid ah foreign policy-geena inaynu ilaalino national interest danta qaranka inaynu ilaalino siyaasaddeena arrimaha dibadda ka mid ah waan ku fahmay taas waa qodob miyayna ka hor imanayn markaynu u tegi weynay dowladahayna casuumay ama aynu u tegi weyna maadaama aniguba markhaatiga ka furayo oo leeyahay dadkii ka soo diyaariyay kulamada baan ka mid ahaa irkaan u tegi weynay national interest-kii dowladaha aynu ka lahayn inuu meesha ku baaba'ay miyayna kulahayn wasiir waad mahadsantahay thank you very much waatay wasiirka intaan u noqonin oo su'aasha aanu ka jawaabin hal qof oo si raaciya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abdulfataax Ali Xasan waan salaamayaa baynalka hal su'aal baan jecelahay inaan weydiiyo inagoo og inaynu 1960kii dawlad madax bannaan ahayn dhowr iyo 60kii inqilaab la isku dayay dastuurkii waqtigaa loo codeynayay dhowr iyo 60kii aynu ka hornimi halgan qadhaadh aynu gallay 1990kii aynu midnimo ku dhawaaqnay referendum aynu qaadnay 27 sannadood aynu nabad ahayn haddana weli ictiraafkii ma hayno halkiina wuxuu noqday inaynu Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlaan sidaa guuleed dafac sheegayna qolo walba dee dastuurka xanibayo oo qolo walba dee caqabadaha ku jira inay toos ama Soomaaliya aqoonsato ama ay toos inaguna uga tanaasulo haddaba haddii ay dhacdo in layna dhexdhexaadiyo oo adduunku ina dhexdhexaadiyo iyaguna meel istaagaan inaguna meel istaagno oo midnimadiina miiska la soo dhigo gooni istaagina miiska la soo dhigo siyaabo kale oo loo kala bixi kara ma jirtaa waxna wada tusaale ahaan waxna wada yeesha waxna kala yeesha ama hadday Soomaaliya ku dacwooto in gobolada qaar referendum gaar laga qaado oo codayn gaar laga qaado ama Somaliland oo dhan codayn gaar laga qaado ama haddii adduunku soo jeediyo inaan waqti mid sii ahaano oo muddo midnimada sii qayb ka sii noqono ama Somaliland oo referendum dib looga qaado ama gobolada qaar ay ku doodo Soomaaliya dee ma gooni istaag ma taageersana marka referendum gaar oo wixii guud ka duwan hana looga qaado marka siyaabaha loo kala bixi karo bal qaababkeeba ka mid ah inuu kala bixi karno haddii iyaguna halka istaagaan inaguna halka istaagno haddii adduunkiina soo dhex geli karo siyaabo kale oo loo kala bixi karo ma jirta aad baad mahadsantahay wasiirka horta qodobka maaragtay in aynu laba mowqif oo aad u kala fog aynu taagan hadidayo in wadamo inoo kale
gobollo ka mid go-aan waa wax soo jireena waa waddankan Eritrea afti baa markii dambe laga qaaday waddanka baa laga qaaday marka way jiraan hab loo kala baxo oo waxa loo wada hadlayaaba waxa weeye dee laba waloo is haysaaba waxay ka bilowdaa laba meelood oo kala fog laakiin marka dambe meel dhaxun bay isugu yimaadaan amba waxa labaduba ay raalli ka yihiin bay isugu yimaadaan amba meel yacniga darajooyin leh oo xilliba meel la joogo ayaa lagu wada heshiiyaa marka keen waxba ka duwanaan maayo kuwaas oo kale waa si suurtagal inaynan heshiinba markaynu wada hadalka bilownayno yacniga ma aha inaynu xaqiiqi inay tahay inaynu wada heshiin doono oo arrinkeena meel dhigi doono waxa suurtagala inaynan ku heshiinin ayaa suurtagala innaku wada hadalka waxaynu doonaynaa waxaynu aragnaa dan labadeena dhinacba inay ugu jirto ayaynu aragnaa oo wax dee hadal iyo wanaag lagu helayo in cunf iyo dagaal lagu doono dee laga wanaagsan tana maaragtay waddamada ayna marti qaaday eena taageersan maxaynu ugu tegi weyn mar bay sheeki jirtaan malanaya waddan ku yaala galbeedka afrika inuu ina marti qaaday oo mataqaanaa carabkii noo laalaadin wax inoo dhammayn karo horta waddankaa waanu la xidhiidhnay waananu la wadnaa ilaa iyo hadda oo dee lagama daalin amba lama daynin wax waliba dee mar bay bislaadaan oo markay bislaadaan dee wixii kaaga habboon ayaa laga yeelaa laakiin runtii xaqiiqdu waxa weeye horta wada hadalka aynu la hadlayno Soomaaliya micnaheedu ma aha inaynu ka tanaasulayno juhdiga aynu ugu jiray in layna aqoonsado kaasu sidiisii buu soconaya wadama xudxudeena iyo saaxiib la noqonaya iyo si kale ku qancinayna nidaamkaas isagu dadaalkeenu halkiisii buu ka sii soconaya xaggana waynu ka wadaynaa haddii aynu ka helno haddaynu guul ka gaadhna alxamdulilah haddayna guul ka gaadhna dee sidii kale aynu guushaynu ku helayno ayaynu yeelaynaa marka taasuna horta waa sidaas weeye haddii qodobkii ahaa ay marka dambe ay timaado meel aynan ka heshiin karin oo qoloba meesheeda ay ku adkaysato si kale oo loo kala baxaa ma jirta doorta marka hore laba waloo ishayaaba sida adeertaan sheegayay laba mowqif oo aad u kala fog ayaa wada hadalkooda uu ka bilowdaa mararka qaarkood iyaga wada hadalkooda dhammaysta mararka qaarkood waa lagu dhexdhexaadiyaa mararka qaarkood arbitration baa loo sameeyaa mararka qaarkoodna dee waabay kuba kala tagaanba oo ku kala kacaanba waa wax runtii jira marka haddii inaku dee aynu wada hadal aynu wax ku gaari weyno goobjoog laga yahay mediation wax ku gaari weyno ay timaadaba inaynu dee kala baxno oo qolo walba dee maxaan idhahdaa wada hadalku halkaa ku burburo ku dhammaado dee saasumay noqonaysaa dabeedna qolo walba wixii dee dan moodo markaa ayuunbay dee yeelaysa waa tahay waan sii socon doonaa gabagabadii barnaamijka ayaa inoo soo dhow dib baan idinku soo noqon doonaa qoladeena daawadayaasha ah ka qaybgalayaasha aqoon-yahanada ah ee martida ugu ah barnaamijka laakiin bal qodobkaas horta aan wada hadallo Soomaalidu waxay tahay inaan heshiino meesha waxa loo tagayaa in la heshiiyo haddii ay arrintu noqoto qofku inuu meesha tago waa inuu ka shaqeeyaa inaanay u dhicin xitaa qofka kale hadday ku adag tahay adiga lagaaga baahan yahay inaad ka dhaadhicso waxaad meesha u tagtay laakiinse hadduu qofkii kale kolkiiba u arko inaanad hadilmiyey doonahaynba inaad hadilmiyey tiisii wax ka soo qaado dee way ku adkaanaysaa adigaa lagaaga baahan yahay inaad adigu hadilmiyey muxuu ahaa kolka la isu tago hadilmiyey muxuu ahaa marka arrintii uu soo qaaday inankii hadilmiyey muxuu ahaa halkii dhaweyto miyaana jirahayn waxyaala la isugu iman karaa waxyaalaha la isugu iman karaa iyada oo Somaliland ay gooni u taagan tahay oo ay tahay waddan hadilmiyey sovereignty-giisii ay 60kii la qaybsatay Soomaaliya la soo noqotay ayay haddana waxyaalo badan ka qaban kartaa Soomaaliya u qaban kartaa Soomaaliyana waxyaalo badan oo hadilmiyey muxuu ahaa hadilmiyey Somaliland ay u baahan tahay ayay la qaban kartaa kolka meesha horta in laga soo qaado meesha waxa loo tagayaa inay tahay
mid labadii qof ee wada fadhiistay inuu isagu wax kasta dunta u rito kii kalena dibadda u tuuro ma shaqayso arrintaas ha kuma shaqayso negotiationka zero sum game wax la yidhaahdo ma shaqeeyo wuu burburiyaa shirarka waa inaad ku qancisaa qofka kale waxaan aad wadaa inay dantiisu ku jirto sideedabana 60kii dee dan baa isu keentay cid isu keen khasbin maantana dan baa keenaysa oo tusaysa qofka Soomaaliya jooga inay hadilmay Somaliland iyadoo oo madax bannaan oo sovereignty-geedii haysata inay wax badan u qaban karto 3 meelood ba Somaliland si weyn bay uga qaban kartaa wax haddii iyadoo sovereign state ay hadilmay muxuu ahaa Soomaaliya ay uga qaban kartaa dhinaca hadilmay muxuu ahaa nabadgelyada security-ga oo waliba caalamka oo dhan uu soo eegayo Somaliland kaarka ciyaari karto waa in la soo baxdaa negotiation-ka lagu wado oo ay wax qaban karto dabeedna ay Soomaaliyana tustaa inay wax ka qaban karto halkaas wax u hagaajin karto caalamkuna u arkaa security-ga maanta caalamku u baahan yahay geeska Afrika inuu dego arrintan Somaliland ay wadaa inay tahay mid contributing bixinaysa hadilmay taageero degnaanshaha iyo nabadgelyada hadilmay geeska Afrika dhinaca kale Somaliland waxay taybarka la iman kartaa iyadoo oo maanta dawlad dhiska ay kari laadahay hadilmay Soomaaliya inay hadilmay maxaa maamulkii dawladeed hadilmay ay dhisto inay khibradda ay inta ay hadilmay 22 sanadood heshay iyo waxay awalba lahaantisay oo ka dhaxashay hadilmay dhaqankii iyo maamulkii hadilmay Ingiriiska ay wax weyn ka qaban karto 60kiina ogaada Soomaaliya may hanan karteen dawlad haddaanay Somaliland ku soo biirin waa tahay waan ku sii socon doonaa waan idin soo noqon doonaa idinkana su'aalahuna way inoo sii socon doonaan iyo barnaamijkuba su'aasha baan iminka u gudbi doonaa halkay tahay Somaliland iyo Soomaaliya in lagu wada hadal siiyo ma gudaha mise wadamo kale oo dibadda in lagu wada hadal siiyo noqonaysa barnaamijkuna inoo soo socotiin doona Professor Abdulsalam de waxay la tahay haddii marba laba daraf wada hadlayaan labadaa daraf waa inay meeshay ku wada hadlayaan ay tahay meel ay isla ogol yihiin oo dhexdhexaada iminka waxaynu sheegnay ingiriisku markuu bilaabay inkastoo 2012 aanu aqoonsanayn iminka safaarad buu la samaystay Soomaaliya uu aqoonsan yahay Turkigu waa aqoonsanaa marka anigu waxaan qabaa meesha aynu tegayno ee aynu ku wada hadlaynaa inay noqoto meel labadeennii daraf baynu aragtaa laba daraf oo aanay midna aqoonsan tahay midna aanay aqoonsanayn kow laba wada hadalku marka ay halkaasoo kale ku bilaabmaan waxay la tahay sidii Professor Ismaaciil yidhi waxa weeyaan ma doonayno inagu in aynu sadbursiimo raadsanayno oo aynu doonayno in aynu qolada kale sida ay leedahay qaadano waxaynu isku badaynaaba sida wax u arkayaan iyagu inaynu aragno maxay iyagu u arkaan imika inaynu ka mid nahay iyaga oo gobol ka mid nahay marka inaynu gobol ka mid ah saddeysna u arkayaan waa inaynu u cadaynaa war intaasaa wuxuu arkaysaan waxaan idin tusaynaa inaanan gobol idinka mid ah oo waxa Soomaaliya la yidhaahdo ka mid ah aanan ahayn hadday markaa taa ku qanci waayaan oo aad tusto intaad halkoodii istaagto inaad ku qanciso inaanad ka mid ahayn waxay la tahay dee halkaa markaa uma jeedaan in ay iyagu dood labadiiba u dan ah inay sii wadaan maxaa sababtoo taa tahay inagu imika waxaynu nahay dawlad iyadoo aan loo aqoonsanayn haddana qaab dhismeedkii dawladoo dhamina dhisan yihiin isbedbeldesha dunidoo dhamina markaa ku ogtahay iyaguse sidii garyaqaanka guuleed yidhi dee waaba niman la ilaalinaya trusteeshipkii ay ku jireen 50kii ilaa 60kii mid la mida 30,000 oo ciidana baa ilaalinaya nima 30,000 oo ciidan ilaalinaya oo aan xamar xukumayso waxay la tahay
waxa ka soo bixi kara haddaynu qiyaasno inaynu inagu aqoonsigeenna sida runtii dariiqyo kale ku raadsano mooyaane waxa iyaga ka soo bixi kara nimanka caynkaasi oo siduu ismaaciil u yidhi mar eeg siday ku samaysmeen inagu kayaan jiray ahayd ilaa bindar qaasim ilaa raaskaambuniga kismaayaagtiisa intaasi 30 sannadood bay ku qaadatay talyaanigu inuu dowlad ka sameeyo intaa ku qaadatay inuu dowladnimo ka sameeyo maanta markii aynu ka baxnay kala burbureen 30 kun oo ciidan oo ajnabiina la joogaan ay isku hayaan dhibaatooyin kaloo dagaalada dhex taagan yihiin waxay la tahay sida ay iyaga uga timaado iyagoo arkayaba darafkeena meesha lagu qabanayo marka waa in la isla garto labada daraf isla gartaan xildhibaankan uu wareegay waxaan anigu oran lahaa number 1 guuleed doodiskan dib u yar noqdo waxaan isla wada garanay in wax ka soo baxaya meesha aan jiro laakiin gamekeenu ciyaarayna waa game ka adduunyadu inay wada aragto gameka ugu weyn ee ku ciyaarayna baan anigu qabaa inay tahay waxaan ku raacsanahay saa uu sheegay halkaas baynu kala taaganahay waxaan ku raacsanahay awooddoodu ama constitution ha noqoto ama waxay doonta ha noqotay in awood maanta ay halkaas soo taagaan oo ay leeyihiin waanu ictiraafnay ay ku adag tahay mar hadday saas tahay horta waa inagu qaadanaa roolkan ciyaarayna inuu yahay ka international community iyo dowladahayna dhex galaya hadba awoodda ay leedahay in aynu ciyaarno awoodaha ayaanaynu isku yaro kulba dowladda yar ayaanaynu doonane aynu doonno dowladaha waaweyn powerfulka maadaama wixiinaba ay ku xidhan yihiin inaynu dowladaha soo dhex gelino oo ay hadhow waxna kala yidhahdaan waa qodobka labaad waxaan ku raacsanahay ismaaciil haddii jeer waxa uu ka hadlayaa waa tiimka negotiationka waa qasab waxaan ku raacsanahay 100% dadkan aynu diranaynaa waxaan ugu talagelaynaa Soomaalida inaynu soo hor fadhiisano si inaan wax ka dhaadhicino iskilkan doonaba aynu uga dhaadhicino taa laftigeedu waa muhiim wax soo iskili doontaa guddida ama commissionka la magacaabi doono ee lead garayn doona wada hadalkaas waa inay noqdaan dad aqoontooda leh waa inay noqdaan qof Soomaalida wax ka dhaadhicin kara waa inay noqdaan qof groupkaas international community-ga inagu dhex jira dad gashan kara wax oo iyaga laftigooda waatan ku fahmay halkay tahay in lagu wada hadal siiyo ama ay ku wada hadlaan aan ku soo koobay odaashada in badan basisay anigu wada jiran soo koobay waatan waxaan ta ku soo koobay waxay tahay in aynu meesha lagu wada hadal siinaya waa muhiim dowladahaas ku xiran tahay dowladaha aynu doonayno inaynu ciyaarno doonada wasiirka taas toos inoogu jawaabi doona miyaa la salab gareeyay weli bise lama sabad garayn Switzerland waan maqlayaa dowlado kale waan maqlayaa weli miyaynu qorshe dejinay gudaha ay ku habboon tahay in lagu hadal siiyo Hargeysa Muqdisho oo kale mise waxay ku habboon tahay in dowladda la isla baxo gudaha kuma habboonaan waxaan qabaa inaynu dowladaha waaweyn doono London baan ku celin lahaa meel ay u dhaantaa haba yaraatee waa tahay xildhibaan waan ku soo noqon doonaa iyo Switzerland ba uma arkay waxaan arkay London tii bilowday markii hore qalad baynu ka soo qaadnay dowladaha waaweyn inaynu bahasha la dhex tagno ku dhex doodno ku dhex muranno ama hadhow hayna yiraahdeen food gala ama hadhow hayna yiraahdeen saa doontaan u gale laakiin anigu ma qabo dowladaha yaryar inaynu ku meereysno mid walba interestkeeda ay leedahay aad wad mahadsan tahay Ismaaciil Maxamuud Hurre waa arrintaas waa arrin muhiim ah aniga say ila tahay halka lagu wada hadlaya anigu waxay ila tahay in gudaha lagu wada hadlo waliba Soomaaliland lagu wada hadlo oo inta halkan la timaado oo ay arkaan sidaad u degan tahay iyo sida wax yihiin aad qanciso inay danta labada dhinacba ku jirto ictiraafka haddii miyaad doonaysaa inaynu aqbalo aniga waxay ila tahay caalamka qudhidiisa arrintan siduu haddii miyaa maxaa ahaa interest culus u yeesho kolka tiraahdo waxaan ku qabanayaa Hargeysa oo kale ataahada maanta aniga aba haddii miyaa ku qabanaya halkan ku qabanaya waxaan hubaa dawlado fara badan oo aaneynaya haddii miyaa oo jecel haddii miyaa geeska Afrika siyaasaddiisu halka ku dambeeyay la socdaan inay wada iman doonaan oo halka adigu ka raadinayso adiga lagu soo raadin doono halka aniga waxay ila tahay arrintu haddii ay kolba tahay arrin Soomaalida dhex taala oo Soomaalidu tahay inay haddii miyaa ka heshiiso halka ay ku habboon tahay in lagu wada hadlaa inay haddii miyaa muxuu ahaa dhulka Soomaalida ay noqoto waliba anigu waxaan haddii miyaa muxuu ahaa soo jeedin lahaa inay Hargeysa noqoto oo hodheelkaynu caawa oo kala fadhina haddii miyaa la isla soo fadhiisto oo la wada hadlo
inay hadilmay arrintu ay ku habboon tahay oo farmaajiyo yimaadaan hargeysa iyo tiimkooduba aad baad mahadsantahay wasiirka maxaad u gabanaysa aad baad mahadsantahay wasiirka kinoo bilaabmi maayo dee haruu soo socday waa tahay hadda kuwan dib u bilaabmi doona haruu soo socday haruna waxaynu ku wada hadalay waddan saddexaad haddii kale arrinka gudaa bay naga noqonaya siduu arrin ku noqdo arrin international waddan saddexaad bay noqonaysaa lagu kalsoon laba dhinac bay ku kalsoon yihiin inuu yahay neutral ayay noqonaysaa meeshii la tagaba haddii dee niyad sami ay jirto dee waxbaa lagu heshiin karaa waa lagu soo dhowaan karaa wuxuu baan doonaya inaan yaro du taabto waxyaabaha laga wada hadli karo ambaba dee haruba looga wada hadlayba mid waa arrinka taqriirul masiirka waa halka u dambaysa weeye aynu ku dambaynayno waana ka marka horeba wada hadalka loo bilaabayba laakiin intaynu wada hadlaynay waxaa soo baxday inay jiraan waxyaabo kale oo aynu ka wada hadli karno oo waxaa ka mid ah ka hawada ka mid ah oo waxaa ka mid ah xagga security ka mid ah wax kasta oo laba wadan oo jaari ay ka wada hadli karaan innaka iyo Soomaaliya laba wadan oo jaari baynu nahay waynu ka wada hadli karnaa oo markaa micnaheedu maaha aniga ajandadu waa hal item oo kaliya micnaheedu maaha waxa ku jiri kara arrimo badan baa kale ku jiri kara oo inoo dana labadeennaba inaynu heshiis ka galno amba aynu tafaahum inaynu ka galno mudane wasiir waad mahadsan tahay waxaan ku noqon doonaa kasoo qaybgalayaashayda idinkoo soo koobaya su-aasha barnaamijka gabagabadiisa baynu ku jirnaa oo halkii ugu dambeysay su-aal iyo soo jeedin waxaad leedihin waad soo koobi doontaan inankaas ugenaysa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور ودي السلام يا لمانتين مرتشرفتا مرحبا وقعيقو حوية عبد العزيز عثمان علي وحكم منها يارضة دكتور جامعة دوغاليس فكرة اي تيجا سؤال شان ويدين لها وسيرك واحد هاي انتان لو وضع هادلين ان وضع هادلكو بالعامين ما تهينا يكوه رئيسو إن لا سو مركور سيسا حالو سبحيو حدودة إلى السومال سيدا ما يستيران looga wada helo Soomaaliland inay wada doonayaan in aqoonsado nabarka ugu weyn ee ay Soomaaliya nagu eedeyso waxa weeye inay beel kaliya nagu shaqtaa waxa degan Soomaaliland beel la dhahaysa Soomaaliland inta way ka balaarada oo ma beel qura beel fara badan baa degan marka hore in dadka Soomaaliland degan gobolada ay wada noqdaan Soomaaliland oo taal lagu horeysiyo ma tahay mid kale ma jirta wasiir inay u kala wacnaayeen madaxweynayaashii soo maray Soomaaliya sida Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif wada hadalada Soomaaliland inay u kala fiicnaayeen ma jirtaa taas wasiir wad maadsan tahay mid kale ku daraya wasiir marka Soomaaliya tagisaan waxa ku dhooftaan baasaboor ay leedahay Soomaaliland si baasaboorka Soomaaliya taas ay noo dambayso labada su'aalood ee wada hadal xuduudka Soomaaliland inay suganto oo marka hore xuduudkeeda ay sugato oo aan arrinta uu sheegaya beesha kaliya meesha ka baxdo miyaan ka horeynin iyo su'aasha kale ee labadii madaxweynayaasha isbedelay wada hadallada ma ku kala horanay dabcan waa waajib dastuuriya oo saaran dawladda inay sugto xuduudda Soomaaliland laakiin shardi ma noqonayo inay xuduuddu marka hore noo sugnaato intaynaan wada hadal wadamo badan baa jira oo dee xuduuda ka dhaxeeya oo waliba khilaaf ka dhaxeeyo oo haddana dee wada hadla marka shardi ma aha iminka in aynu nahno ilaa iyo xuduuddeena aynu sugno la hadli mayno laakiin waa waajib inaynu xuduuddeena sugno arrinka la xiriira madaxdii dee soo martay Soomaaliya inay noo kala yirka qaboobaayeen kolley dee waa kala jaad mid walba duruuftiisu mid u gaara bay ahayd laakiin mid ka wada dhaxaysay waxay ahayd midna muu lahayn markaa awood u go'aan runtii adag u gaadho iminka madaxweynaha cusub isagu dee wuxuu leeyahay waan soo dhaweynayaa wada hadallada taa micnaheedu waxaan rajaynayaa inay noqoto inuu mataqaanaa uu dee waxna goyn karo waana laga yaabaa inuu dee marka loo eego kuwii hore isaga ka horreeyey maanta inuu meel ka wanaagsan uu joogo qodobkaaga kale baasaboorada markaynu dee dhoofayno waxaa jira wadamo inoo ogol
inaynu ku dhoofno oo ku tagno somaliland passport himiladeeduna runtii waxa weeye inaynu waddamadoo dhan ku qancinno in lagu dhoofo baasaboorkan hadda laftigeedana waa lagu tagaa yacniga caalamkoo dhan waddan aan lagu tegini ma jirto ninka maalin dhaweyto halkan iskuulkan abaarso oo mataqaanaa loo xafladeynayey ogolaashihii loo ogolaaday inay ka mid noqdaan laga diiwaan geliyo New England Schools and Colleges Association waxa warkan oo ku siiyay inay jiraan arday fara badan oo reer Somaliland oo ka baxday iskuulkaas oo Mareykan ku joogta baasaboor sidoo kale arday badan baa ku joogta Ingiriiska baasaboor Somaliland waxay ku joogaan Malaysia ku joogaan caalamka dhan bay ku joogaan laakiin way jiraan mararka qaarkood in dhibaato soo ambaad amuur kale u tagayso waddan in dhibaato kala kulanto watahay wasiir wad mahadsan tahay barnaamijka gabagabadiisii baynu kusoo jirnaa su-aasha ugu dambaysa oo ah haddii la tegi waayo arrinta masiiriga ah ama go-aano ay kasoo bixi waayaan wadahadallada hadda dib u farmaya ee Somaliland iyo Soomaaliya ma tahay in ay sii socdaan mise waxay tahay in laga baxo professor waxay la tahay halkaynu imika soo gaadhnay oo ah inaynu wadahadallada soo wadnay muddo 6 sanadooda inay Somalilandna jirtay 26 sannadood inay intaasna koraysay dhismaysay inay imika tahay in aynu dadkii reer Somaliland oo dhan dhowr iyo 7 sannadood ee Ingiriisku uu dalka xukumayay ku guda jiray hanano oo xuduudkeedii uu gaadho marka waxay la tahay in aynaan u baahnayn wadahadalladan oo aan qabo inaanay marka horeba sida runtii laga yaabo inay ka soo baxaan hataa dowladda imika uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ka madaxda yahay wax la odhanaysa Somaliland iyo Soomaaliya ay aqoonsanayaan haddana in aynu inagu mar walba raadsanno iyadoo markaa aynu weliba ka doorbidayno aqoonsi aynu ku raadsanayno waxaynu qabsannay iyo halkaynu taaganay iyo arrinka qaanuuniga ila sharci baad ayaad ku doodaysaa markaa sharcigii aynu haysanay waa in aynu dunidii ku qancinaa waxaana jirta imika East Timor markii ay sameysay Indonesia ka go'aysay iyadoo aan weliba go'in baa ayaa dawlado badan ay aqoonsadeen caalamkani siyaabo badan buu u shaqeeyaa oo ay tahay haddii aad u dadaashay inaga dhaqdhaqaaqeena yaraa imika intii dambe intan aynu wada hadalladan u kuseen waxaana samayn kara maaha xukuumadoo keliya saynu waxa weeyaan waa bulshada oo dhan oo isku duuban oo xukuumadduna hogaaminayso oo ay weliba doorka ugu muhiimsan ka qaadanayaan aqoon-yahanada garyaqaanka iyo aqoon-yahanada taariikhda haya iyo odayadii ilaa marjiciyadoo laga dhigayo iyo arrin laga ambaqaadayo heshiiskii caalamiga ah ee aynu Ingiriis lagu sameeyeyba Somaliland inaynu markaa nahay ummad xaqeeda ul in la aqoonsado watahay wadahadalladu haddii ay midhadhali waayaan qaybtooda hore inta qaybtan bilaabmi doontaa ma in hore loogu sii socdaabaa mise waa in la iska laabo waxyaabo kale laga shaqeeyo bismillahi raxmaani raxiim anu ma qabo oo keliya inaynu option keliya markaynu isticmaalino Soomaaliya laakiin waxay noo furan optionadii kale oo dhan ictiraaf raadiskiina waxaan qabaa in dib loo eego iyadoo wasaaradda khaarijka wasiirku nala joogo uu imanka uu hogaaminayo in modification lagu sameeyo in dib u eegis ballaaran for the past 25 years ictiraaf bay doonayeen imanka inaynu Soomaaliya un ku mashquulo iyo shirarkan way soconayaan rajo badan oo xadaafa kama qabno in aynu 2003 laakiin waxaan noo qabaa anoo inagu waajiba in aynu siyaasadda khaarijiga iyo ictiraaf doonka dib u eegis ballaaran ku sameyno dhisno oo dabeed aynu ku hogaaminno barbar socodno tan Soomaaliya oo aan noqon option kaliya inuu isleeyahay taas waa qodob ma laga baxaya mise lagama baxaya anuu ma qabo in aynu imaga ku go'aamino waynu ka baxayna haddii saas noqon waxaan qabaa wada hadalku inuu iska socdo uu socon doonaa intuu doontaba qaato laakiin in aynu taargargarayno dowladaha aynu ictiraaf ka doonno galbeedka Afrika waa ka mid Yurub ka mid igad ka mid inaga laftigeenu inaynu isticmaalno skillska aynu doonno Soomaaliya dawo Ismaaciil baa nala joogay oo dee Soomaaliya in badan joogay baarlamaanka Ismaaciil oo Soomaaliya laftigiisa ma laga helayaa waa su'aal ictiraaf aad kala xaga ku khabiira Kenya anu waxaan qabaa waqtiyeed ka mid ah
wasiir ay motion dhigaysayba in baarlamaanka kenya meelaha ictiraafka adduunyada laga keeno waa baarlamaanada soomaaliyada imika aynu hadal hayno wixeedoo dhan waxay kusoo ururaysaa baarlamaankaasoo motion la geeyo bal ismaaciilo taa ma ka shaqayn karnaa sweden waxaan qabaa wasiirku waa ogyahay xildhibaano fara badan oo aaminsan oo anigu waqti aan tegay lahaa mooshinka ma dhignaa kanada mooshin baa la dhigay oo la dhigayba oo nin dee kanadiinay u sitay waxyaalahaas waa inaynu eegnaa aynu culays ka saar oo budget loo sameeya xaddaaf ah waa haddii barnaamijkeenu uu yahay mataqaan ta kale qodob kale isla jira waxaa jira legal side wax lagu doodi karo weligeeba intaan maqli jiray aynu garyaqaano somaliland oo la garyaqaanaan dalbanayna qadiyadda international court iyo geyn doona taa laftigeedu dee legal markaad eegto ismaaciil iyo cabdicasalaam ba xoogaal weeyaane strong case baynu haysanaa sida aynu isugu nimi iyo sida aynu kala tagnay iyo taa laftigeeda legal waa isla garyaqaanaduna waa joogaan in aynu keeskeena somaliland ictiraafkeedu aanu noqon aynanu ku keenno soomaaliya oo aynanu ka rajaynay aynu imika labalaab maadaama dowlad cusub imika ay timi aynu labalaabno budget anigu waxaan ogahay miisaanadda wasaaradda khaarijkiisa very very small amount of money laguma dooni karo ictiraaf sidatan in aynu wasiir miisaanadduna oo ka hor taallaahay inaad barnaamij ballaaran oo maxaafid iyo macaradba la soo yimaado oo baarlamaanka wax naga weydiisaan oo garyaqaanada wax ka weydiisaan oo civil society wax ka weydiisaan oo lacag xaddaafaan qabaa in aynu u alloogad garayno 2018 in aynu dardargelinno oo aynu ka midha keenno within next 2 years target ku samaysanan qabaa hadduu eebbe subxaana tacaala ka dhigo waa tahay waan ku soo noqon doonaa waxaan dib ugu noqonayaa waxa weeyaan horta ilaahay khayr siiyo wasiirku imika intii uu joogay laba buugo kitaabanba waaweyn buu sameeyo midna ay tahay xagga sharciga in sida ay somaliland xaq ugu leedahay inay noqoto dowlad jirta oo la aqoonsan karo ta kalena ay tahay wixii inaga soo gaadhay dhibaatooyin oo aynu ku dacwi karno dunida wuxuu yidhi inantaa meherkeeda mar wixii iga gaadhay dub laysoo marin maayo waxa in wixii inaga gaadhay halkaa midnimadii markaa inaan dub laynoo soo marin kow ta kale waxaanu doonaynaa in laba arrin oo waaweyn aynu samayno halkana aan u marinayaa dadkeena dowlad kama bixi karto xukuumadda iyo cashuurta yaraynu iska qaadnaa somaliland guda iyo dabadba waa in sanduuq loo sameeyaa weyn oo lacag lagu guro oo malaayiin dollar ku jiraan oo lagu doono aqoonsiga kow ta labaad wasaaradoo kaliya in lagu haleeyo maayo wasiirka waxa weeyaan xukuumaddu waa in ay dad aqoon u leh arrinka kan oo taageero wasiirka iyo wasaaraddiisa oo garyaqaana leh oo aqoon-yahankii kale ee taariikhda hayadne oo odayaashii leh waa inay intaasba inta la miidho dabeedna ay noqdaan kuwa tegaya ee ama meelo kale oo ka raadinaya aqoonsiga ama wadahadal lafteeda ka noqonayo hormuud waa tahay waad mahadsantahay ugu dambayn wasiirkunbaa igu dambayn doona arrin haddii aad gasho noocan oo kale ah sideedaba adoo ka midha dhaliye mooye inaad tidhaahdo ood ku bilowdoba hadilmiye muxuu ahaa haddii arrintaas wax ka iman wayda waan ka baxayaa kolka horeba umaad hayn hadilmiye muxuu ahaa niyad iyo hadilmiye muxuu ahaa inay waxan aad ku hadilmiye muxuu ahaa guulaysanayso ayaanad aaminsanayn haddaan taa aaminsanayn dee iska kolka horeba ha gelin laakiinse haddaad aaminsan tahay inaad ku guulaysanayso waa inaad ka midha dhalisaa ood hubsataa inaad hadilmiye muxuu ahaa sideedana dad adigoo kalea sidii horeba loo sheegay ayaad hadilmiye muxuu ahaa la doodaysaa oo isaguna danale adiguna dana leedahay danahaa sidaad isugu keeni lahayd waa inay ka mid noqotaa hadilmiye strategigaaga oo aanay kaa noqon hadilmiye waxaa la yidhaahdo win-win situation maanta siyaasadda caalamiga kolka hadilmiye muxuu ahaa cid kale wax kaaga xidhanto waa inaad hubsataa qofka ay wax kaaga xidhan yihiin amba waddanka ay wax kaaga xidhan yihiin waxaanad wadanigana dan ugu jirto waa in markaa lasii wado oo wada hadallada inta lagu gungaadhaya laga socdo wasiirka ayaan ugu dambayn doonaa bismillah cayl runtii waan ku raacsanahay marka haddii aad wada ka qayb geliso wada dad marka horeba aad kaga qayb gasho adigoo rumaysan inaanu guuleysanaynin dee guuleysan maayo
innaku waxaynu rumaysannahay inaynu wadahadalka ku guulaysan karro oo sidaynu inaku ugu qanacnay gooniisutaageena cid kalena ugu qancin karro caalamkana ugu qancin karro dalkaasaynu ka duulaynaa laakiin haddana dee iska indha tiri mayno inay iman karto xaqiiq ah inaynu waxyaabo kale ku heshiino laakiin qodobka masiirgeenu ku heshiin weyno marka waa in dee istiraatiijiyad kale waa inaad leedahay yaa balan b waa inaad leedahay sidii haddeerta aan sheegay horta tanu dee ma aha waxa keliya ee aynu ku doonayno ictiraafka somalilan waa mid ka mid uhun dadaalkeennii kale aynu ka wadnay caalamka dee sidii baynu isagana aynu u wadayna laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu inaynu si nabad oo wanaagsan oo inaynu ku heshiino oo maxaan idhahay ku wada noqono laba wadan oo xora oo walaalaa oo dee wax badan wadaaga ya oo dee danahooda ka wada shaqeeya ayaan rajaynaa insha allah asalaamu calaykum waa tahay intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijkii dooda ahaa ee ku saabsanaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya oo igala qayb gelayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan dr zacad cali shire iyo weliba siyaasi ismaaciil maxamuud hurre buuba oo xubinka ah xisbiga mucaaradka ee wadani iyo weliba sida oo kale professor cabdisalaan yaasiin iyo xildhibaan maxamed xirsi obama oo golaha wakiilada ka tirsan dadweyne aqoon leh iyo garyaqaanada ay gala qayb galay oo kale oo aan aad ugu mahad celinayo iyo professorada jaamacadaha barnaamijkan lamida dib intaynu ugu kulmi doono dhammaantaya waxaan idin sii leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu